aniga waxa meesha majaalka iga furcaawo waxa weeyaan inaan mar kaleeto idinku soo dhoweeyo madasha BDRC oo madasha tan ay gaar ahaan ay tahay tii 13aad mawduucu waa kaas way u buuxda mashaakilka dowlad dhiska Soomaaliya iyo xaalad maareynta muxuu ahaa xilliga kala guurka ah oo doorashooyinka waxaan jecelahay oo aan filaynaana inaynu ku ekaano mawduucaynu ku ekaano caawa muhiimad gaar ah inoo leedahay madasha BDRC madashani markii la bilaabayay waxaan islahaa imisay socon doontaa laakiin 13 bay hadda maraysaa inkastoo bilayna ka baaqatay wax badan oo cilmiya iyo aqoon ah iyo fikir ah baa la kala qaataa dad badan oo qiimo gal ahna way keenaan BDRC waa uga mahadcelinaynaa waxaan soo dhaweynaynaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo caawa madashan inoo ku ah martida mawduucuna uu yahay dowlad dhiska Soomaaliya iyo maareynta xilliga kala guurka aad baan markaa u soo dhaweynayaa doodan qiimaha badan leh madaxda sharafta leh oo aan magacyadooda iyo aan hilmaamay oo mudnaa in la magacaabana waa mudan yihiin waana inoo furan yahay doodeennii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan waxaan kugu soo dhaweynayaa microfoonka tafadal cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray nolol caadi ah nolol halbeeg kasta oo lagu cabiro la mid ah tii Soomaalidii waqtigaasi ay u badnayd iyo mid farxadda nolosha iyo waayaha adagba uu la qabay gurboodka ama barbaartii ay isku ayniga ahaayeen cabdishakuur waa mutacallim shahaadada heerka koowaad iyo heerka labaadba ku haysta culumta sharciga wuxuuna si gaar ah ugu takhasusay barashada iyo isbarbardhigga noocyada federaalismka cabdishakuur waxa uu u guuray dalka Ingiriiska waxaana ka mid noqday xubin firfircoon oo ka mid ah bulshadii Soomaaliyeed ee qurbaha cabdishakuur waxa beer qaaday dhibaatadii dalkiisa ka jirtay waxa uuna dib dalka ugu soo noqday 2007 waxa uu noqday gudoomiye ku-xigeenkii xulufadii dib u xoreynta Soomaaliya ama Alliance for the Liberation of Somalia isagoo markii dambana garwadeen uga ahaa wada hadaladii ay la galeen dawladii TFG-da iyo heshiiskii Djibouti ee 2008 iyo 9 cabdiraxmaan waxa uu dawladii Djibouti lagu soo dhisay ka noqday xildhibaan iyo wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah cabdishakuur waxa uu la taliye sare u soo noqday madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya waxa uuna dowr hormuud ah ku lahaa shirarkii Kampala Accord London 2 iyo wada hadaladii Addis Ababa u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamulkii curdanka ahaa ee markaas la oran jiray Jubaland cabdishakuur waa hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo ay isaga iyo asxaab badan oo aynigiisa ay wada asaaseen sanadkii 2016 sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u tartamay kursiga madaxweynenimo ee Soomaaliya sanadkii 2017 intaas baan ku soo koobi karaa waa uu dheeraa cabdiraxmaan cabdishakuur ku soo dhawo markale stage-ka sidaan sheegnay ciwaankana uu yahay ubuucda caqabadaha haysta ama mushkiladaha ku gadaaman dawlad dhisida Soomaaliya iyo nabadeeda intaba waxaan sheegnay in 30 sano qaranka Soomaaliya uu jiray 30na uu maqan yahay oo weli dib u dhiskiisii lagu jiro taasna ay kaliftay in aan baylaha u noqono wax kasta oo bini aadan maaragtay ku dhaca duruufaha bini aadan oo la kulmo hadday tahay isdil qax maaragtay isqarxis macluul cudur albaabadeenna oo ballaqan intaba waxaasoo dhan waa dad ay soo mareen ayaan nahay welina waayo aragnimo badan runtii lagama qaadanin oo waxay ahayd in aan waayo aragnimo badan waxaasoo dhan aan ka qaadano welina waan ku jirnaa dawladhiskii qaranka
inay dowlad nation statena waxaan isku sheegnay adduunka aan looga maarmin haddeertaan bini aadankana danihiisa uu ku ilaasho karin darxumadana uu isaga dhowri karo keliya uun waxay tahay waa nation state oo dowlad qaran in la helo taasna waxaa caddaynaya inaan dalkeennii ka qaxnay oo magangelyo uda raadsanay dowlado kale ee u shaqaynayso dowladda casriga ama dowlad qaran ay u shaqaynayso aan nafteennii iyo maalkeennii iyo cirdigeennii iyo sharafteeniiba aan ku badbaadsanay taas laga maarmaa inay tahay isku sheegi mayno waa isla wada ognahay laakiin weli dhibaatadan haysata ayaa ah in aan dareen qaran ama waxaana dhahaan national conscious uusan weli xoog lahayn ayaa jirta oo laga yaabo qofka haddii qabiilkiisa ama asaga wax la gaarsiiyo ama qabiilkiisa wax la gaarsiiyo ama deegaankiisa wax la gaarsiiyo sida uu gurminayo u qaylo dhaaminayo haddii qaranka loo dhaawaco ama qarannimada ay dhibaato ku timaado uusan sidaas oo kale u gurmanaynin u damqanaynin ayaa jirta maxaa keenaan isweydiinaynaa marka midda ugu horreyso caqabadda aan ku sheegi karno waxay tahay koowaad inaan weli aan struggle kula jirno ama aan kula jirno loolan sidaan isku waafaji lahayn habdhaqanka annaga nolosheenna ee qabiilka ah iyo midka ay rabto dowlad casri ah dowlad casriga waxaa nidhi waa dal ama dhul iyo shacab iyo awood xukun oo iswata oo taasoo macnihii muwaadiniinta ay yihiin muwaadiniin siman oo xaqa u siman sharciga u siman xuquuqdana u siman waajibaadkana u siman ay yihiin ilaalisana xifdisana amniga iyo kala dambeynta ilaalisa dowladdaas sida loo dhiso waa inay sharciyad haysataa dowladdaas oo ay sharciyad ka haysato muwaadiniinteeda oo ay legitimate ay tahay dowlad oo legitimate ay tahay wuxuu wabeerayaan wax la yidhaha definition oo stateka inuu yahay monopoly of violence to protect inay ilaaliso dadka una adeegto dadka sharciyada dadka ay leedahayna ay ku adeegto dowladda markaa taasaa ugu muhiimsan waxaa kaloo muhiima in la helo jihaaz dowladeed oo maamul oo ku dhisan waxaan ay dhahaan impersonal ah oo aysan aan nepotism ama eex aan ku dhisnayn oo aan ku dhisnayn maaragtay favorism waxaan ay yidhaahdaan oo ah aniga qofkaana aan u heelinayaa ama aan fadilayaa ku dhisnayn ee ku dhisan meritocracy waxa ay dhahaan oo qofka xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo qualitygiisa ku dhisan ay dowladnimada casriga waxay dalbanaysaan aan ka sheekeynaynaa waa taas waxay kaloo dalbanaysaa in nidaam sharci ah oo taladii xukunka la iskugu wareejiyo in lagu heshiiyo oo ah nidaamka dimuqraadiga ah oo accountability waxaanay dhahaan ama isla xisaabtanka ay dalbanaysaa qabiilka muxuu dalbanayaa marka oo annaga base noo ah qabiilku wuxuu dalbanayaa in laysku heeliyo oo tolka iyo kabta dhexda uga jirto ninkii carabkaaga wuxuu yidhi wamaa ana min khaziyata in qawad qawiiti uu dhahay wa in tarshudi alqaziyata arshudi haddii anigu reer qaziye qabiilkaas lean ka tirsanahay hadday lumaanna waa la lumayaa hadday hanuunaanna waa la hanuunayaa marka ninkii musaylo ibnu kadaab hayaa waxaa la yidhi maxaad nebi maxamed maa rumaysidu wuxuu yidhi waa rumaysna yidhi maxamed wuxuu sheega oo dhan laakiin anigii tolkiisaa ishaynay marka ma raba in la yidhaahdo ninkii dee waa laga adkaaday oo waa tolkiis waa ninkii tolkii kalaa nebi ka soo baxay arrinta ma aqbali karo yidhi marka qabiilka marka walaagiisa ama loyaltigiisa ma yaallo stateka ma yaallo wuxuu yaallaa baasha iyo tolka ayuu dhex yaallaa in laysku hiiliyo qaaraanka laysla bixiyo diyada laysla dhiibo waxaasoo dhan ayuu qabiil ku salaysan yahay oo ah waxa danta qabiilka iyo tolka ku dhisan tanna waxay u baahan tahay in dowladnimada la siiyo loyaltiga ama stateka loo ahaado loyal oo sharciga uu sarreeyo muwaadinkana assurancy ama ay siiso damaanad dowladda ay ka tahay midaas horta waa caqabada koowaada waa iswaafajilana ilaa 60kii xataa xorriyadda aan qaadanay labadaas afrikana way nala wadaagtaa kaligeen ma aha iyo dowladaha carabta oo idilba waa la iswaafajilaya hadda ka hor buu qoray ayaa carabaha markii sheekeynaya wuxuu yidhi waa trabis with flags oo dhan waa qabiilo calamo leh marka oo qabiilkaas ayaa awood loo reer bani hebel iyo reer aal sabaax iyo aal sheekh iyo dalkaasaa lagu xukumaa dalalkaas marka dowlad casri ah waxaa hortaagan caqabada koowaad waa midaas caqabada labaad waxaan dhihi karaa waa fahamka diinta diinteenna annaga waa qodob weyn oo dadka muslimiinta ah aan ka mid nahay laakiin fahamkeeda la qalday ayaa wuxuu caqabad ku noqday
dowladdii in la dhiso culummadiina waxay u isticmaaleen diintii wax ayaga dantooda ay uga turjumaan intooda badan kulligood maaha oo markaas xaakimka jira ama ciddii suldada haysata ama ciddii awoodda haysata sababtoo ah siyaasaddu oo wax maalinla ah oo isbedela duruufaha maalintaas la jaan qaadaya isbeddelkeeda uu badan yahay masaalix ku dhisan isrogta isbahaysiyo iyo ku dhisan maaragtay iyo dana bursanaya marka sheekhii waa imaanaya wuxuu leeyahay masalada diintaa qabta haddii ayada nafteedii oo beri haddana wuxuu leeyahay ayadaa qabta beri dambena ayadaa qabta marka waxaa laga dhigay diintii in la waafajiyo danta markaas cidda xukunka haysata iyo nimankaa dhallinyarada hadda dagaalka ku jira ee fahamkii islaamka dhan ka qaldamay oo qarax iyo burbur iyo dilid ku shaqeeya marka diinteenna wixii princibalka ahayd ay u taagneed markii xukunkii siyaasadda la yidhaahdo oo sida hadda sheekha uu sheegay cadliga musaawaadka dadku inay sinaadaan oo sharciga u sinaadaan xuquuqda in la ilaaliyo dadka shacabka ah ama muwaadiniinta ah in la ilaaliyo wada noolaashaha oo dadku inay wada noolaadaan hadda waa arateen dunidan ilbaxday dadku waa wada nool yihiin ayagoo kala diime iyo caqiide iyo dhaqan ah yaa la wada nool yahay annaga diinteenna asaasay u tahay oo waxaa ku jirtay aayadda qur-aanka waa tii dhahaysay nabiyullaahi shucayb markuu dadkiisa la hadlay wuxuu ku yidhi wain kaana طaa'ifatun minkum aamanuu biladii ursiltu bihi wataa'ifatun lam yu'minuu fasbiruu xataa yaxkuma allahu baynana qola haddii aniga wixii layla soo diray ay rumaysay qolada kalena ay diiday intii ilahayna kala xukminayo aan isku sabarno marka waxaa la yidhahdaa waa aasaaska ama foundationka tacaayushka silmiga ah ama wada noolaashaha iyo wasiiqadii ugu horreysay suu sheekha hadda meesha ka wacdinaya sheegay oo nebiga seexay oo dadkii mushrikiintaha muslimiintaha iyo yuhuuddi u kala seexay wasiiqatu madiina la yidhahdaa in la wada noolaado madiine la wada difaacdo la wada ilaashado ayay ahayd foundationkii ugu horreeyey oo nebiga ku dhisay calayhi salatu wasalaam dowladnimada ayay ahayd diintii saas u ahayd maaragtay naxariista iyo raxmadda waa la mari habaabiye waa caqabad kale oo taagan ayadana oo dowladnimada hortaagan maxay ku hortaagan tahay wadaad qarax iyo qoray iyo dil la ordaaya iyo wadaad kaleoo mar kasta ninka xukunka jooga ama qofka xukunka jooga siinaya asaga sharciyadoo dhahayo waxa aa samaysay waa saxsan yihiin ummadda islaamkana hogaamiyaheedii adiga xaqa ah adiga waaye ka kaloo beri yimaadana sidii oo kale ayuu uun halkaas kasii miisayaa falsafadii marka ahayd in xaqa runta loo sheego dadka xukunka hayaa meeshii waa ay ka baxday caqabad saddexaad waxaan dhihi karnaa inaysan jirin hanaan xukun oo laisku raacsan yahay ilaa haddeerta halkaan puntland la yidhaahdo xaafadan maanta aan joogo nidaamka federaalka u ah base dowladnimada soomaaliya ay rabto qoladeennan koonfurta joogtana weli unitary statekiaan rabnaa xaggaasda u baxdo walaalaheen somalilandna go-itaanay meel la taagiin ayagana weli wa layskuma raacsana falsafadda xukunka soomaaliya ay noqonayso dadka ahlu xalliga walcaqdiga ama iliidkaa iskuma raacsana qolobaba si ay u aragtaa inuu xalka ku jiro oo ay iyadu difaacaysaa oo ay la taagan tahay marka national debate ama dood qaran inta dhacday la isku raacay uniform nidaam ah oo xukun ah qaab xukunka la isku raacsan yahay dadaa weli dowladnimadii burburtay waxay u haystaan inay tahay tii fiicneed oo weli ay u taamayaan waxaan idhahay waa xasuus oo qaraami ay kuleeyihiin dowlada naga duntay dadna waxay u arkaan inay shaydaan dume ay ahayd doodaas marka weli way taagan tahay ayada nafteeda oo in xukunka dhexe oo dowlad keligeed talisa ah xukunka dowladda federaalka ah xarunteeda xamar qofkii yimaadaa kuwa hadda joogaba ugu darnaadaana waxay ka siman yihiin inay talada ayaga gacantooda ku jirto keliya inay rabaan oo xukun baahsan oo furfuran oo maaragtay dhexkafur ah ma jiro puntlandna waxay leedahay federaal ayaan rabnaa haddii federaalka macnihii la qaado waayena sida saaxiibka juxa oo sheegay nuclear option wax la yidhaahdo federaalka qaadanayna ayay la taagan yihiin oo ay doodooda ku salaysan tahay somalilandna waa sheegay waa middaas midda caqabadda afaraad dalalka markay institutions leeyihiin ama nidaam dawli ah oo dhisan oo kala dambeynle ay leeyihiin uma baahna meritocracy siyaasadeed wax la yidhahdo meritocracy inta badan waxay associated la tahay ama ay la socotaa maamulka iyo hanaanka maamulka dawliga ay la socotaa laakiin siyaasadda lama raaciyo soomaaliya waxaa ka maqan oo caqabad ah meritocracy siyaasadeed oo ah hoggaan siyaasadeed oo fahamsan
caqabadaha dadka haysta iyo dalka as a nation waxa aan wajahayno doodaha isdhaafsan ismaan dhaafsan ee yaalla iyo duruufaha lagu sugan yahay hoggaan og oo xeeri kara weli lama hayo mararka qaarkood wadamada aad arkaysaan oo dhisan oo America iyo ugu weyn yihiin haddeertaan adduunka duruufo adagay soo mareen laakiin hoggaano meritocracy siyaasadeed ka saaray oo ayagu og xaaladda dalkooda uu ku sugan yahay iyo sidaasayna magacyo iyo taariikh ay ku leeyihiin hadda laakiin America shakhsi uma baahna wax America shakhsi oo macno ka leeyahay ma jirto nin hero ah oo America soo baxaya ma jiro sababtoo ah institutionskiya saldhigtay nidaamkii dawliga ayaa saldhigtay qof marka macno kama laha agtooda laakiin markii Abraham Lincoln iyo George Washington ay laga hadlayo ayagaa salka u dhigay institutionka Mareykanka annaga marka taas maxaan u leenahay waxa waaye waxaan nahay fragile state Soomaa qofka marka xukunka loo doorto loo caleemo saaro xilligaas wuxuu leeyahay awood oo wax kasta ku hadlay karo sababtoo institutiono dabraya oo accountability isla xisaabtanka qabanaya qofkan ee awoodda ka celi karaa ma leh hadda Donald Trump America wuxuu rabo sameey lahaa laakiin maxaa celinaya institutionada haysto ku dhagan marka annaga maadaama aysan jirin institutions dabraya qofka hoggaanka ah ama leaderka ee la doorto wuxuu rabo sameey karaa waata maanta baarlamaankeena iska xiran yahay wax macna uusan leeyahay aysan jirin waata keentay in madaxweynihii 30 beri ayadoo dhaafay uusan barnaamijka magacaabay cid ku haystan aysan jirin maxaa keenaya hay'adihii accountability isla xisaabtanka ayaan jirin marka qofka hogaamiyaha wuxuu rabo iska sameey karaa haddii uu dhinaca togan u rogan oo yiraahdo dalkan dhisayaane saasoo kale wuxuu u sameey karaa in uu dhinaca togan aado marka madaxda timaada inta badan ma aadaan dhinaca togan ee dowlad dhismaha ma aadaan ma jecla hadda in uu madaxweynaha magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare uu sameeyay laakiin sida saxda ah dastuur ku qoran waa maxay waa inuu judicial service commission ka horta la sameeyo kamaal dhaweyd ra'iisul wasaaraha sharci darrada ku fadhiya meesha uu boobsiinayay kaas waxay ahayd marka hore asaga in la dhiso kaasna marka uu garsoorka asaga ka arrimiyo marka sababtoo haddii la dhiso wuxuu keenayaa inuu madaxweynihii wax awooda ku lahayn garsoorkii saas daraaddeed ma rabo marka wuxuu rabaa garsoorkii gudoomiyihii golaha sare ee maxkamadda sare asaga inuu magacaabo waxaa la mid ah hay-adda maalka ilaalisay hantida hanti dhowrka waa hay-ad soo maaha hay-adaha waxay ka mid tahay korjoogtaynta leh ka mid tahay sida saxda adduunka normiskiisana oo yahay waa inay baarlamaanka hoos joogto dowladdii hore markii uu xafiiska tagay madaxweynihii hore wuxuu uga tegey iyadoo hay-adda la hoosgeeyey baarlamaanka laakiin ma uusan saxiixin sabab jirtaba ma uusan saxiixin dowladda markay timid way soo celisay sharciga waa la bedelay waxaa loo bedelay in la hoosgeeyo xukuumadda waxaan u maleynayaa senator jariila ka warhaya baarlamaanka markay aqalka sare u direen aqalka sare waa ku soo celiyeen waxay ku soo celiyeen in la hoosgeeyo saasoo maaha jariile la hoosgeeyo hay-adaha baarlamaanka in la hoosgeeyo aan la hoosgeyna xukuumaddii kusoo celiyeen aqalka sare ilaa hadda sidii meeshaasi ku xaliban tahay madaxweynaha inuu saxiixa ma rabo sababtoo haddii hanti dhowrka laga hoos bixiyo awood oo isaga samayn kara ma jiro hanti dhowrka waxaa waaye xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska wasaarad kasta iyo xafiiska hay-as kasta dowladda u siman inuu markuu rabo baari karo haddii awooddiisa la hoosgeeyo baarlamaanka la hoosgeeyo laakiin hadday xukuumadda hoos joogto oo xukuumaddana isaga raacday karto ama xil sii karto macnihii waxaa waaye xukuumadda ma baari karo marka dhismaha hay-adda waxay u baahan tahay meritocracy siyaasadeeda niri oo ah in qofka hoggaanka ah oo conscious yahay caqabadaha jira iyo sida dowladda dhismaheeda oo ku imaanayo midda shanaad waxaan dhihi karnaa fahamka waxaa qaldan mar walbaba dadka madaxda oo imaanaya waxay u haystaan dowladdii inay dhisan tahay maxaana ku jirnaa hadda taytarka muxuu yahay dowlad dhisidaan ku jirnaa qofka markuu hoggaanka subaxaas loo doorto wuxuu u maleeyaa dowlad soomaaliyeed oo dhisan inuu ka taliyo u maleeyaa mushkilada ugu weyn iyo caqabadda ugu weynayna ka mid tahay mana ka taliyo haddii adiga banaankaas cidlada hadda aad tirahdo guriga iga dhisan waa deganahay guri 5 dabaqa iga dhisan dadka u sheegto halkaan ku hoyda dadku inta ku fuuriyaan ku leeyahay qofka ma waalan xageed ma cidlaha degantahay xageed guri ka degantahay waa saas oo kale dowladnimadeennii markay duntay awoodii waa la qaybsaday sovereignty waa qaybsantahay
siyaadadii qaranka way qaybsantahay qaar halkan uu yaalla aan joogno cawada qaar xamar uu yaalla qaar gobollada isteedyada kale uu yaalla dowladdu monopoly of violence awoodda ay ku hanato xukunka ma haysato saas ognahay sharci ay dhaqan geli karto awood ay ku fulin karto ma laha isku weerka madaxtooyada ay degan tahay ma dhaafi karto ammaankeeda ciidan ajnabiga ilaaliya soo maaha biilkeeda beesha caalamkaa bixisa maxkamadda dastuurigaane twitterada safaaradaha ajnabiga ah haddii runta la isku sheego saasay taho qofkii wuxuu u maleeyaa dowlad dhisan inuu madaxweyne ka yahay oo amarka isaga uu soo saaro hore inuu ka fulo intaas waa annaga aan naadinaynay subax iyo habeen kasta war dalkan tala guddoonkeeda wadaag lagu yahay isla guddoon iyo is-ogol keliya lagu wadi karaa waa co-governance leadership waa midda hadda loo fadhiyo qaybta transitionkan uu hadli doonaa oo hadda la realize gareeyey 3 sano iyo barka bacdi in loo baahan yahay co-governance go-aan in la wada qaato loo baahan yahay haddii bilowgii saas lagu dhaqmi lahaa maanta meeshaan joogno ma joogno maxaa waaye marka dadkii madaxda waxay u haystaan in dowladdii ay dhisan tahay asagiina madaxweyne yahay baarlamaankana baarlamaankii yahay prime minister iyo xukuumad yahay laakiin meeshaan in awoodihii ay kala qaybsan yihiin oo dalka ay ku kala daadsan yihiin waxaan ku sheegahay ma garowsana midda lixaad oo caqabadda ah maxaa waaye waa in la fahmo is-aaminaadda inay waxa ugu muhiimsanee maanta naga maqan ay tahay is-aaminaadda oo dowladnimada la xiriira sida kale waa isku aaminsannahay is-aaminaadda mujtamacaadka ama bulshooyinka annaga caynkeenna ah muhiimay u tahay haddii qof qoys gabar ka doono waa in la yaqaanaa waa la weydiina xaggee ka timid aan leeyahay haddii qof shirkad kugu darsan rabo wuxuu ku leeyahay yaa ku yaqaana yaa damiinkaa ah hadda annaga ma hay-ada dowladeeda noo shaqeeyo insurance leh oo contract lows ma shaqeeyo shirkadaha laakiin is-aaminaaday ku shaqeeyaan ganacsiga soo ma arrimaheena ijtimaaciga is-aaminaadaan ku wadnaa laakiin dowladnimo markay timaado oo la leeyahay sovereigntigaygaan dhiibaya aniga madax banaanidaydaan dhiibayaahoo qofkan kalaan u dhiibayaa asaga in madax banaaniyo dhan la isugu geeyo awoodda dowladnimada la isugu geeyo sida la isugu geey karaa keliya maxaa waaye in uu ilaaliyo sharciga iyo dastuurka awoodda lagu siinayo dadkii waxaa arkaysaa inay ku leeyihiin dowladda maxaa ka rabtaa xataa hadday sharciga jebinayso dowladda maxaa u haysataa xataa hadday constitutionku tumanayso war haddii constitutionka lagu tunto constitutionka waa heshiiskii bulsho waayo soo ma waa waxa aniga aan sovereigntigayga iyo madax banaanideyda aan u dhiibo waayo haddaan madax banaanideedii dhiibay qofka ku tumanaya dastuurka macnihii heshiiskii aan madax banaanideyda aniga ku dhiibay oo sovereigntigayga isaga aan ugu gacanta ugu geliyey you ku tumanaya marka inaan iska aqbalo suuragal maaha dadku inay aqbalaana suuragal maaha markaa social contractiga baskiisi asaga waay marka maadaama annaga aan ku jirno processkii dowlad dhisidda aan ku jirno weli dastuurkeenna waa qabyo weli siyaasaddeenna waa qabyo weli heshiiskeenna bulsho waa qabyo weli siyaasaddeen inay saldhigato ma saldhiganin marka waxaan u baahannahay process yaa noo abuuray marka spaceka aan ku wada hadlayna yaa abuuray dowladda dhexe bayskeeda waa muqdisho soomaa spacekaas askar ajnabiyaa abuurtay lagu wada hadlo yaa laga ilaalinayaa soomaalida dhexdeedana waa laka ilaalinayaa nimanka qoriga la ordaaye ee qarxiska la ordaaye al-shabaabka la yidhaahdo ee dagaalka u socda ee laga keri la-aya war haddaad diin wato diintu waa wax xaniifa doodeeda la imaawo dadku qanci lagama karo waa ku dilaa wali haddaana ku xukumayni kuwaas ay ilaaliyaan annagana wayna kala ilaaliyaan soo maa waa caasimadda markii la joogo oo dowladdii meeshii ay deganeed ah spacekaas siyaasadeed marka oo maxay dadkaa marka waxaasoo investmenti ah danahooda kale xagga noogu kaadi ay u fureen oo waxaasoo maalgashi ay u samaynayaan waxay u samaynayaan soomaalidii waxay leeyihin waxaan u abuuraynaa space siyaasadeed ay ku wada hadlaan ayaga markii spaceka abuurayo waa dhinac inteena kale dowlad goboleed iyo xisbi iyo dowlad federaal ah iyo bulsho rayad iyo isku kala darna waa dhinac nimankan qaranka inay dumiyaan rabo dowladnimada annaga rabna aan rabin ee qoriga iyo qaraxa la ordayana waa dhinac qofka marka loo doorto inuu spaceka dhexda ku jiro kuwa darafay u xigaan soomaa waa kuwii qoriga la ordayay kuwii kalena ajnabiga aan dhinacaana taagin spacekan dhexe qofkii loo doortay hadduu xiro ka waran masaaxada uu yidhaha meeshaa meel lagu hadlaa maaha kii ra'yi ka duwan qabaana ou xiro kii talo ka duwana ou dumiyo waa ayaan darro inteeda la-eg ayaan darro inteeda la-eg waaye qofkaas waxaa laga rabaa
spacekaas inuu furo oo furnaado kow dadkii inuu isku raadiyo labo is-aaminaadii iyo kalsoonidii ka dhexaysa inuu dhiso saddex qiyaaska lagu cabirayo waxaa waaye halbeegaan rabaa inaan aniga aan ra'yi ahaan qabo waxaa waaye halbeega hogaamiyaha soomaaliya maanta lagu cabirayo waxaa waaye dadka intee la ego isku soo dhaweeyey gaabka intee la ego soo xiray is-aaminaadda intee la ego dhisay hay-adaha dowladda in la aamino alla anagu hay-adaha dowladda shoogaan ka qaadnay iyo argagaxaan ka qaadnay hay-adaha dowladda in la aamino oo askariga booliska la aamino oo kan militariga la aamino oo kan maxkamadda jooga la aamino maxaa keenay inay dadkii ayagoo muqdisho jooga nimankii wax qarxinayay ee u xukun tagaan maxaa keenay oo maxkamadihii dowladda ay ka cararaan su-aalaha u baahan in la isweydiiyo waa midaas qaybta transitionka hataa u gudbo iyo xaaladda maanta dalka maraayo soomaaliya weli waxay ku jirtaa horta transition marxalad kumeel gaaraan ku jirnaa kumeel gaarkiyaa laga baxay annaga unbaa isku sheegnay adduunka laakiin weli waxuu noo haystaa inaan ku jirno marxalad kumeel gaar ah maxaan ugu jirnaa sababtoo ah 6 qodobba oo in kumeel gaarka laga baxo aasaas u ahayd ee axadigii kumeel gaarka ay ugu horreeyay carta la isugu yimid lagu qoray 6dii xabad mid laga fuliyo ma jiro 6dii qodobba midna lagama fuliyo 6daas qodob maxaa waaye kow dastuurka in la dhammaystiro dastuurka ma la dhammaystiro waa maya weli waa qabyo 20 sano waa qabyo marna wuxuu ahay axdi marna dastuur kumeel gaar u ahaa labo waa in dalka doorasho qof iyo cod laga qabtaa ma la qabti waa maya oo qofka hoggaanka noqonaya oo public legitimate sharciyad dadweyne uu haysto ma haystaa waaye ma haysto kumeel gaarka waa ku jirnaa weli mid saddexaad waxaa waaye 4.5ka iyo qabiilka la isku dooranaya in laga tago oo aidiyo iyo axsaab iyo afkaar iyo deegaan doorasho loo gudbo ma haynaa waa ma hayno weli kumeel gaarka waa ku jirnaa saddexda kalena security bay la xiriiraan ciidan qaran oo sovereigntiga qaranka ilaaliya iyo constitutional orderka kala dambeynta dastuuriga ah midka nabadgelyada hay-adaha booliska ilaaliya ciidan qaran oo constitutional orderka iyo borderiskeena ilaaliya ma haynaa ma dhisin weli ma dhisna ciidan amisom mas-uuliyadda kala wareega oo dowlad ajnabiga naga maaransiiya ma dhisin ciidan al-shabaab ka adkaada oo argixisada ka adkaada ma dhisin weli marka transitionka ku jirnaa waxaan u malaynayaa qaybta ciwaanka laysiiye waa transitionka hadda qaybta waxaa laga wadaa u malaynayaa kala guurka siyaasadeed iyo sida awoodda laysku wareejinayo halka xabo oon ku guulaysana kaas waayo in 4tii sanaba doorasho si nabada ay ku dhacdo dadka way ogol yihiin ruuxa ka soo baxana loo dabaaldego labada qof ee ka horreeya xukunka qofku uu ka tartamay gacanta uu taago oo uu ka golajileed gareeyo yiraahdo waa laga adkaaday halkaasna loogu sacbiyo oo lagu soo dhaweeyo tiyaa maanta mugdi ku jirta waa halkii aan 20 sano hayay agosto 27 aniga campaign-kayga loonji garay hotel jazeera ka loonji garay bisha la soo dhaaftay 20 campaign-kayga aniga oo 2017 aan doorashada uga qayb galay maalintaas aan loonji garay maanta yaa campaign loonji garay kara yaa yaqaano doorashada goortay dhacayso yaa yaqaano in lees dooranayo lama yaqaan mugdigaas yaa abuuray abuur hoggaankii dowladda cid kale ma abuurin dowlad goboleedyada inta dadaalay ee ayagii shirar qabanaya oo ayagii ay leeyihiin aan isku imaano markii ayagii la isku imaadeen la kala tuura haddana ayagii oo dowladdiyaa kala tuuraysa la rabay ayagii inay mas-uuliyaddeeda noqoto dadka inay ayada isku keento ooba lagu faraxsan yahay oo la leeyahay politicking waxaa la yidhaha gameka sidaas loo dheelo ma aragti saa u kala tuurno horta shantoodii is haystay saa u kala tuurnay taas hadda looga sheekaystaa villa soomaaliya maaha wax mucaaradnimo maaha sida factis waaye maaha wax aniga mucaaradnimo iyo ra'yaan uga bedelanahay madaxtooyada maaha labana meelaan ku dabarnay saddexna meelaan ku xirnay saa u kala tuurnay maaragtay gameka saa u dheelnay waa hadda waa ciddii loo diray inay dadka isku keento ayada hadday politicking ku faanayso waa dhibaato inteeda la-eg dadkiina ay leeyihin wallahi bilahi nimanka game ay dheeleen war game dheelid maaha hadeertaa waa xilligii dadka la isku doonayey compromiseka la sameynaya aniga doodayda waxaa waaye dowladda hadda jirta ee maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiye dalka in doorasho laga qabto ma rabto very simple hadday rabto dhaqankeeda laga arki lahaa oo ah dadka inay isku doonto tanaasulka ayada raadiso aniga waxaan qayb ka ahaa UN-kan u shaqeynaya processkii doorashada
dowladdii xashiiq hogaaminaya madaxweynaha isagaa meel kasta u tegaayay inuu negotiation ka galo cid kasta oo ka saacidi kartaana u siinaya awood inay ka saacido nimanka hadda jooga waxaas waxay u yaqaanaan weakness u yaqaanaan nacasnimay u yaqaanaan soomaalida dee waxaa laga yaabaa de definitionkii soomaalida oo geesiga loo yaqaanay qofka dagaalka badan dadka laaya markaas nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam yaa geesi ah la yidhi markaasuu yidhi geesiga ninka lagdinta badan maaha oo qofka caradiisa hana kara markuu caroodo yaa geesi la yidhahdaa oo dhibka ku dhacay dhihi kara isqaba kara qofkaasaa la yidhahdo geesi waxaa la yidhi sanadka markii la sameynayaan joognay kismaayo negotiation ka socday somaliland saddex ha loogu daro puntland saddex ha lagu daro saan hala yeelo because madaxweynaha laba arrinaa daraafgaraynaysa markaas jooga oo ah doorashada ku guulaysan kartaa doorasho hala qabto aniga waxaan isleeyahay doorashada waxa loo diidan yahay guusheeda cabsi laga qabaa haddii doorashada guusheeda la og yahay ee qofka xukunka jooga aaminsan yahay doorashada asigana ku guulaysan karo sheekh shariif oo ka horreeyay sheekh xasan sheekh saas uu ahaa soo maa garow 1 garow 2 tanaasulaadka uu sameeyay dhow wuxuu u sameynayay inuu isleeyahay doorashada ku guulaysan karto meeshaan cabsi waxaa jirta ah inaan doorashada lagu guulaysan karin marka waxaa la raadinayaa muddo kororsi waxaa madaxa iyo majaha la isaga xirayaa dalka oo dhan dadkiisana shaki iyo mugdi in la kala geliyo ayaa la isku dayaa transitionka marka aniga waxaan aaminsanahay sida looga bixi karaa waxay tahay inay dadka ahlu xalliga wal caqdiga ah oo idinka intiina hor fadhisa aa kamid tihiin inaadan ka noqonin waxay dhihi jireen maaragtay indifferent inaadan ka noqonin siyaasadda dalka because istaaggeeda hadda aad u sarreeya waa in loo wada istaagaa in gacmaha la qabto soo nabiga ma dhin unsur akhaaka dhaaliman oo madluuman haddii oo walaalkaa gardaran yahay haddii la gardaran labada gacanta qabo suuragal ma aha dadka ahlu xalli wal caqdiga inay ka aamusnaadaan duruufta dalka ay ku jirto loo maleeyo dowlad goboleed iyo axsaab mucaarada inay ishayaan farmaajo in loo haysta maaha oo inta kalena ay noqdaan dad mutafarijiin oo taagan ma jirto waxa halista ku jira waxaa waaye isteegii soomaaliya halista ku jira oo haddii aan gadaal ugu dhacno oo dhibaato imaan karto dowladdii hore markay dunto waa ogtihiin wax kasta waa la dumeen haddana wax kasta dadka ayagaa dhistay jaamacadaha ayagaa dhistay iskoolada ayagaa dhistay isbitaallada ayagaa dhistay shirkadaha teleefonada ayagaa samaystay kuwa ganacsiga kala duwan jidadka xataa ayagaa dhista cabsi kama qabo dowlad hadda inta dunto lala dumayana cabsi kama qabo laakiin dhibay keeni kartaa dowladda haddii ay dadka xukunka ahaayay ay si xun u dhaqmaan dhibaatay keeni kartaa laakiin sidii horoo kale ma nagu dhacayso waxaa laga yaaba reer puntland inay leeyihin tankistu federalismka saas keenay oo dadkii inay deegaanadoodii iyo ayaga isku tashadaan laakiin soomaali waa isku tashatay wax hadda naga dumaayo oo dowladdu waxay ku cayaaraysaa wixii aan haysanay maahane dowladda hadda waxay noo soo kordhisay ay noo keenayso ama ay naga qaadanayso saaki haddii la exam gareeyo ama la assess gareeyo ma jiro wax walba annaga dadka soomaali inta hadda haystaan ayaga u dhisay dowladda waxaa laga rabay inay dhisto national consensus dowlad qaran lagu dhisaayo oo gobonnimadeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna ilaalisaa laga rabay tii ma aanan gaarin laakiin hadda wax aan haysan ani cabsi kama qabo inay wax u dhimi karto laakiin dadka alwaxli wal caqdiga ma aha inay ka noqdaan dad mutafarijiina oo indifferent inay ka noqdaan maaha adduunka kale waa arkaysaa marka qaarkood wadamada haddaa dhegeysteen maraykan iyo yurub iyo doorashada ten outka waxaa lagu leeyahay 40% 30% waay sababta mataqaanaa dadku waxay dhisteen institutionno waaweyn oo dadka siyaasiyiinta ka ilaaliyaa u dhisan marka qaarkood xisbiyada iskaga qaldama conservative iyo laborka democrat republic waa iskaga qaldamaan xataa xisbiyada dan weyn marka dadku kama laha maaha inuu wacyigiisi tiisi ka dhintay maaha laakiin waxay isku aaminaanay haystaan in lagu seexdo ha seexan soo ma ahayn institutionno lagu seexdaa rabnaa nin lagu seexda ma rabne institutionno lagu seexday haystaan ha u jooga laakiin hadda Trump markuu yimid waa lasoo wada kacay halis markii la dareemay qof walba hal wal caqdi waa lasoo wada kacay xataa kuwa republicanka hal maa lasoo wato mid broadcast furta mid kaligiis meel istaaga dadkii maraykanka hal mar waa soo wada kaceen waxaa leeyahay nin ku dheelaya ilaali dowladnimadii marka qof ma jirto hadda uga turaysa haddeertaan Trump laakiin annaga ma lihin institutionno naga ilaaliya dadka siyaasadda u dhiiban oon ku seexan karna miyaa jira baarlamaankii aan isla ogeyn miyaa lagu seexan karaa haddeerta oo leeyahay madaxdii ilaalinaya ma jirto baarlamaankii waa la xiray dowlad goboleedyada oo ahaa check and balansiga hadba sidii loo dhigay ku xirantahay dad badan markii waxay u qaataan dowlad goboleed inay caqabad ku yihiin dowladnimada doodaas waa jirtaa mid la diidi karana maaha
laakiin dowlad goboleedyadu anigu waxaan u haystaa inay check and balance qayb ka yihiin oo dowladda dhexe markii hay-adihii kale ayada ilaalinayay ay kasoo baxsato waxa jagka ku haya inay yihiin dowlad goboleed ay yihiin baarlamaanka markii la rabo waxaa leeyahay heshiis waa liinkeena wax allaale waxay dowladda heshiis soo gashay hal meel la horgeeyay ma jiro ayagana weligood ma warsan weligood xataa hana loo keena ma dhihin ama kii abey lala gala aado ama kuwo kale waxay cid weydiiseen baarlamaan ma jiro laakiin markii la rabaa waa liinkeena leeyahay markii la rabana looma keenayo kuwaas marka nagama ilaali karaan doodaas waxaan kusoo gabagabeynayaa si aan dee marxaladaas adag uga gudubno waxaan u baahannahay sheeko xiriir qaran in la wada dhisaa loo baahan yahay ugu muhiimsan aan kusoo gabagabeynaya middan waaye adduunka hadda social media wuxuu keenay dood kastoo xaafad taalla xaafadaha soomaaliya ka mid a waxaa laga yaabaa dooddaas iyo gartaas qolo walba inay keligeed isku qanciso laakiin ogaada social media wuxuu keenay in doodda ay gudbayso doodihii shalay 10 sano ka hor laisku sheegayey oo ama victimizationka ama grievancyga ku saabsan ama annaga waxaasaan naloo diidan yahay iyo nalama rabo iyo nalooma ogolo iyo waxaas in annaga qaadano waa sheeko xiriirtaas hadda waa gudubtay dood kasta ee guri kasta ee siyaasadeed ama xaafad kasta ee siyaasad ka sarxaysa ka dhacda waa mid nationaali ogaada dadka soomaaliyeedana gartarna qaay marka doodaha waa inay noqdaan doodo qaramaysan oo national level ah sheeko xiriirtii maaragtay la isku sheegayey oo hal qolo intay meel isku xirato ayada keligeed isku sheegaysay ma noqon karto sheeko xiriirtii waxay noqotay mid national ay noqotay oo waxaana ka dhigaya social media oo dooda cawada halkaas aan u fadhino min Minneapolis ilaa waxaa laga fiirsanayaa tuulada Soomaaliya ugu dambaysa soo maaha dood qarsoon ma noqon karto marka doodaha waxaa la rabaa nafteeda standardkooda in kor loo qaado aysan noqonin keliya dood cabasho iyo grievance iyo challenge dood positive iyo aragti qarannimo ku dhisan inay noqotaa la iska rabaa maasintiin assalaamu calaykum ولجل بانلك عائشة جيلة عبد الرحمن عبد الشكور هي حمزة سود وهذا مركبة وحن أول تمر كروه مهنا عبد الرحمن عبد الشكور سيد في عن أو سود شيء دي ما أنت presentation كيسو رنتي أهمية أد وحياة بدن مركزي تابتي هدي مركزي سيد ما أنت إنه مدرسة أي هنج كتابة قاب كوه نقون دونا دور سؤالود وحرد عبان وبلعب دونا kadibna waxaan u furi doonaa dhammaan dadweynaha si ay markaasi ay iyaguna su-aalahooda ay u weydiiyaan cabdiraxmaan iyo xamse iyo caashaba waxaanse idiin xasuusinayaa inaad markaasi aad runtii su-aasha un weydiisaan si maadaama waqtiguuna noogu dheeraanin su-aasha un weydiisaan oo markaasi ka aydaan ka dhigin wax comment ah markaas maadaama uu inoo yahay maanta cabdiraxmaan iyo xamse iyo caashaba inaan ka faa'iidsano wixii su-aalo ah ee mowduuca dowladiska iyo maareynta qaabka doorashooyinka xilligan kala guurka ah nagu eegina haddii aan su-aasha u horeysa aan idin weydiiyo markaas soomaaliya dowlad waxaa ka jirtay dowladdii burburtay oo 21 sano jirtay isla markaana ay awooddu ku urursanay xukunkii militariga ah oo dowlad dhexe ah wax kasta iyo go-aan kasta iyada ay markaasi ay xoog ku lahayd inay fuliso ka gadaal waxaa la galay burburkii 10kii sane ugu horreysay 1991 ilaa 2000 waxaa lagu jiray saaxad markaasi inuu ka maqnay kadib waxaa la abuuray wadatashi badan afta 2000 oo maanta laga joogo 20 sano waxaa ku xigtay Eldoret 2004 oo dowladdu lagu soo dhisay marka geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya wuxuu ahaa mid soo socday ilaa 2012 la gaaray markaas inay yeelato dastuur dunyada markaasi Soomaaliya intay ka tashatay ay maanta u dhigatay qaab markaasi ay ku kala isku maamusho waxaa ka xigay nidaam federaali ah waa geedi socodka sidaas u soo socday hadda sidoo Cabdiraxmaan Xuseyba waxaa ka muuqata dowlad kasta oo Soomaaliya timaada oo ugu sii horeysatay hadda maanta joogtaa in aad moodo nidaamkii dowladda dhexe in gacanta ugu jirtay dowladda dhexe maanta ay taladii kusoo ururayso oo dastuurkii kumeelgaarka ahaa iyo nidaamkii federaalka ahaa ee Soomaaliinta iskugu timid ay dooratay aan maanta aanay ahayn waxa maanta ka socda markaas
marka sideeba soomaali maxay rabtaa ma nidaamka ay ku heshiisay federaaliga ahaa ma wax cusub oo kadib layskaga yimaadaba hakee loo socdaa markaas markaad eegto waxaan ku bilaabi lahaa cabdiraxmaan runtii waa mahadsan tahay waana su-aal muhim ah runtii sida aan sheegaba hadalkeygii dadku weli markay xukunka ama talada yimaadaan inta badan maadaama qofka talada imaanaya qofka talada imaanaya uusan ku imaanin ajando siyaasadeed oo ka yimid dood qaran ka yimid oo ama qof ka soo dhex baxay mashiin siyaasadeed ma aha oo nidaamkan dimuqraatiga hadda annaga noo yaalla waa fragile isaga naftiisa oo qof kasta waxaan xasuustaa markaan tartamaynay baarlamaanka oo khudbooyinka akrinaynay nin baa markuu dadka isbarayay wuxuu yidhi waxaan u shaqeeyaa dabagalka dowlad hebel macnihii sirdoonka dowlad hebel aan u shaqeeyaa oo dhahay sharaxuuna ahaa baarlamaanka khudbooyinka qof oo concern ku hayana maba jirinba qof walba waa iska dhegaysanaysa way duubantaa haddaa rabtiin waa ku noqon kartaa youtube-ka weli way ku jirtaa marka waa inaad lacagta registrationka iska bixiso tartanka doorashada aad gasho unbaa kaa xigtay wax kaloo lagaa rabo ma jirto taas marka maxay keentay in doodo siyaasadeed ama mashiin siyaasadeed oo xisbiya qofaan ka imaanin ama doodo siyaasadeed ee dadkan ay qabaan ama dalkan hor yaalla qofka isagoonan aragti ka haysanin iyo kambeyn yar inta galo xoogaa samuudana bixiyo iyo xukunkii ku guulaysanaya marka waxaa imaanaysa qofkii talada inay ka wareerto oo subaxba wax bilaabo marka oo is yidhahdo soomaalida saanay rabtaaba hadda subax waxaa arkaysaa oo nadaafad xaaqin iyo jidada lagu kacayaa oo dowladda dhowr bilood ay ku maqnaanaysaa arrintaas subax kale waxaa la arkaa wixii dadka rabay inaysan ahayn waa laga soo noqonaya haddana tuutaa la xiran militariga la tegi xeryaha la booqan askartii ka dagaalayna ayaan waa lagu soo daala haddana waa lasoo noqon ayaan kale haddana wax kala furi oo mashruuc kale haddana la abuuraya leeyahay hadda dowladdan oo kale tubo wax la yidhaha la sameey ayaan tubsii loo lahay oo tub ugu wareersanayn tubtii waa iska tagtayba ayaana haddana la soconaya wax kale haddana la keenaya waxaas maxay ku tusinayaan markii hore aragti siyaasadeed iyo dood siyaasadeed iyo national vision qofkaanu uu kambeynka ama siyaasadda ku soo galay maba jirinba si wax walba marka wuxuu tijaabinaya aniga waxaan is leeyahay dadkana waxaa ka dhex guuxaya dad baaba u haystaba dowlad awood leh inay tahay dowlad dadka cabsi gelisa oo soomaali lafteena hadalladeena annaga waraahyadeena waxaa ku jira dowlad waa tii laga cabsadaa ku jirta soo ma waraahyadeena kamid tahay soomaalida markay kula hadlaya ku leeyahay dowladda waa tii laga cabsado war adduunka dowlad tii laga cabsado ma jira dowlad tii la ixtiraamo soo ma oo xaggeeda loo baxsado oo nafta iyo hantida iyo maalka iyo dadnimada iyo sharafka iyo cirdiga lagu aamin yahay dowladda marka qofku wuxuu isleeyahay xukunka imaanaya adiga saa u taliso waa inaad awoodda adiga gacanta ku haysataa taas waan sheeg ku noqon maayo saas daraaddeed ajando siyaasadeed iyo dood qaran oo kasoo dhex baxayna ma jirto subax walbana wax hor laynagu ku tijaabiyaa saas daraaddeed aniga waxaan dhihi lahaa inay doodaha qaranka noocan oo kaleeto ah iyo dadka ahlu xalli waa aqdiga oo ilaashanaya dowladnimada yarta oo dhisan inuu consciouskooda iyo wacyigooda soo jeestaa la rabaa say ayada danta guud u wada ilaashadaanoo siyaasiyiin yar iyo xoogaa yaroo bulsho rayid la yidhahdo markii raba laga hadal siiyo arrinta aysan noqonine arrin la wada ilaashanayo la wada leeyahay oo qarannimo la ilaashanayo inay noqoto ayaa wixii lagu heshiiyey lagu ilaalin karaa horena lagu socon karaa saas leeyahay cabdiraxmaan caashi maxaad ku dari lahayd السلام عليكم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa akhyaarta sharafta badan oo halkaan isugu timid oo dhalinyarada u badan dhalinyarada mustaqbalka u badan waxaan isleeyahay runtii waxay u tahay diilo fiican in ay wax badan ka bartaan muxuu ahaaye waayaha ay ku dhex nool yihiin iyo meesha u socdaan sida uu muxuu ahaaye cabdiraxmaan uu ka shaqariyey horta waxyaabaan uga duwanahay waxa waaye ilaa iyo xilliyo dadka waxaan ahaa daljoogta la yiraahdo waayihii dagaaladu lasoo maray muxuu ahaaye waxaan soo joogay xilliyadii ay maamulada iyo waxyaabahaas maamudmayeen dowladdii federaalka ku-meel gaarnimadii lasoo maray doodihii muxuu ahaaye 2016 muxuu ahaaye doorashadeedii halganka loo soo galay ilaa iyo hadda
muxuu ahaa weli sida uu cabdiraxmaan sheegay xarbi loogu jiro xaggee aadnaa berito oo muxuu ahay laga qayb galay dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 oo iyadana aan goobjoog ku ahaa waxaan kaloo aada ugu faraxsana inaan nasiib u helay inaan iyada laftirkeeda aan la fadhiisto anigoo ka mid ah muxuu ahaye aqoon-yahano bulshada rayidka ah inaan la fadhiisto madaxdii dalka si aan wax ugu ogaano fikirka ay qabaan taasoo runtii wax badan kasoo baxeen marka waxaan is leeyahay cabdiraxmaan markuu hadlayey waxyaabaha caqabadaha oo maanta na hayso meeshaan u soconno tusaalaha u noqon kara intii quruxda badnayd buu ka taataabtay oo muxuu ahay cilmiyan muxuu ahaye salka ku haysay laakiin waxaa jira waxaa la yihi weelku waxaa la yidhi hadduu gunta ama geedka gunta marka uu la abuurayo hadduu ka qalloocdo ma saxmo waxaa la rabaa inaan isweydiino xaggee ka nimid dowladnimadan maanta aan harsanayno xaggee maxay ku dhisan tahay sidee bay ku dhisan tahay marka laga reebo yacni waxay qabatay runtii maanta waxaan ku faraxsannahay inay dowladu jirto aan filaynana inay weli sii socoto heer kasta ha gaartee laakiin waxa waaye waxaanu ka soo unkanay caqabado iswada haysta oo muxuu ahaa midba midda kaleeto ay ku tahay ay sii xoojinayso oo runtii keenay maanta inaan garan weyno meesha u soconno qabiilka ayaa wuxuu noo ahaa caqabadii ugu adkayd oo runtii aan kusoo ababnay maxaa yeeley qabiilku qofka fiican ma doorto muxuu ahaayey qabiilku wuxuu yaqaanaa qofka uu rabo inuu doorto tusaale hadda haddaan kasoo kac magaalada gaalkacyaan ka imid aniga waa ku dhashay wax badan baan joogay labada gedi oo ay leedahay labada maamul ay kala maamulaana yacni aad baa la igaga yaqaanaa laakiin maanta aniga haddaan aniga cabdishakuur aan tagno oo dhinacaan soka aan la joogo la yidhahda yaa dooranaysaa ana i dooranayaan 100% qabiil bayna igu dooranayaan ma aha fiicnaan iyo waxa ay tahay haddaanu dhinaca kala tagno oo anigu aan kaga badiyo oon joogay oon ku dhashay oo intaas aan soo joogayna waxaa xaqiiqo ah in cabdiraxmaan dooranayaan marka taasaa waxay keentay qabiilka marka waxa weeye hoos buu usii daadegayaa garow oo kale markaan joogo haddii aniga iyo meeyarku aan soo istaagnana meeyarkay dooranayaan marka meeyarka iyo in adeerkiisa isla yimaadaanna markaasaa miisaan imaanaya wax imaanaysaa meeyarku waa lafteeka kale waa kee marka micnaha meesha aan maanta ku noolnahay iyo dowladnimada aan haysanaba ah mid noocaas ku timid mideeda kaleeto oo muxuu iyadana kasii darana waxaa waaye waa interestiga oo qofkan waxa waaye interestiga isaga uu leeyahay keliya inuu nagu xukumo baan maanta u taaganay dowladnimadaan haysano waa taasaa waxay keentay in muxuu ahaayey aan kala garan weyno meel aan u soconno iyo meel aan ka nimid aan kala garan weyno waad dareemi kartaan haddaan interest niraahno yacni ma sharxi tusaalayaal uma baahnid inaan idinka siiyo meesha muxuu ahaayey na gaarsiisay interestigaas na gaarsiiyey taasoo ah haddii dani iigu jira waa dooranayaa haddaan dani iigu jirana dooran mayo waxaa kaleeto oo iyadana muxuu ahaa caqabad kale nagu sii noqotay oo maanta dowladnimadana meesha u soconno gaarsiisay inaan garan weyno waxa weeyaan waa fakrinimada fakri hadday hadi tahay oo aadan awood u lahayn waxa weeye dee qofka xoolaha haysa ku gadanaya qofka xoolaha haysana wuxuu gadanaya waxa weeyaan qofka uu rabo oo asagu beri uu wuxuu rabo ka samaysan karo marka waxyaabahaas ayaa waxaan is leenahay waxay na indhatireen inaan garan weyno meeshaan u soconno taasuna waxayna keentay inaan maanta ka fekerno intiinaan oo maanta dhalinyaro ah mustaqbalka aada dareentaan in muxuu ahay caqabadahaas ayna haysaan marka meeshaan ka nimid waa jahligaas waa qabiilkaas waa damacaas xun tusaale haddaa idiin soo qaado dastuurkii oo ahaa meeshii shuruucda naga hagi lahayd baa ilaa ay hadeerta intaas oo sanadood maqan anigu guddoomiya waxaan kasoo noqday dastuurkii 13 bilood baan joogay niyad fiican ba 5 sano oo kalena waxaa sii hayay ajnabi baa sii hayay marka anigu aan imid dowladdii joogtay waxaan islahaa waa ku gacan qabanaysaayo dowladnimaday rabtaayo dastuurkay rabtaayo si maanta meesha u socona u caddaan lahayd isla markii waxyaabihii la dhacay waxaa weeye hadda looma baahnaa la yiri dastuurka hadda looma baahna maxaa yeelay dowladdu waxyaabaha istustay waxay ahayd haddii dastuurku dhammaado waxaa ka baxaya meesha fursadihiisa oo noqoshada dadka aqoon-yahanka oo muxuu ahaaye keliya oo ka dhiidhihi lahaa inaan dastuur jirinna waxyaabaha ay weydiin jireen waxaa ka mid ah ra-iisul wasaara dadka dhibay
muxuu ahaaye waxaa fiicnaan lahayd inaad soo qaadataan madaxweyne ku-xigeen madaxweynuhu magacaabo marka waxaan dhihi karnaa meel daran baan u soconnaa meel daranaan ka nimid waxa waaye aqoon-yahankiina ma daba qaban dowladuhuna noocaasi ku yimaadeen haddii su-aashii aan walaalkeen aad u laabto soomaaliya saan isleeyahay aniga waxaan kasoo bilaabaynaa lixdameeyadii muddo markii dowladdu la helay dowladdaas waxay ahayd dowlad rayada intii aan akrinay iyo intii laga sheekeeyey waxay hirgelisay in la isdoorto in dastuur la sameeyo in dadka la tirakoobo dowlad dimuqraadiya oo axsaab ku dhisan ayay ahayd laakiin sidii uu sheegay cabdiraxmaan uu ka hadlayay cudurrada khatarta ah oo dowladnimada soomaaliya ragaadiyey oo dhibka ku haya mid ka mid oo ka qabiilka ah uu ku dhex jiray dhibaatooyin badan buu u geystay taasoo keentay in ay militarigii imaadaan oo dalkii ay sharciyadoo dhan ay la wareegaan oo dowladdu dumiyaan wixii ka dambeeyeyna ay gacanta ka baxday waxa ugu wanaagsan ee dowlad saldhig u noqon kara dowlad wanaagsan oo ah xorriyadda qofka muwaadinka xorriyadda waxaan u malaynayaa sidaad ogtihiin in beri israa'iil la xoreeyo ilaahay nebi muuse uu soo diray marka xorriyaddaas oo aasaas u ah horumarka bulshada iyo caqliga bani aadamka iyo koritaanka shacabka ayaa waxaa weye meesha ka baxday muddo 21 sana waad garanaysaan dowladdaas tilmaamay lahayd 21 sano wixii ka dambeeyey burburkii dowlad ha la soo celiya marka la yidhi waxaan filayaa dooda muhiimka ay ahayd in la furo markii ugu horreysay waxay ahayd dowlad noocee abaan rabna dadka soomaalidu waxay in fara badani ay ku faanaan oo qabkoodu ay ku jiraan dee dowladnimadii militariga ee 21 sano geesiyaasha africa iskaa waxu qabso intaan ka boodnay waa nala sharfi jiray erkaan waxaas oo laakiin markii aad simple question haddaad weydiiso oo ah oo waaye maxaan sidan u noqonay marka al-umuur bilkhawaatiim yani mogti le meesha waxaa laga waxa meesha ugu dambaysa unbaa laga eegaay baashu haddii ayba janno soo ilaahay soo diray ahayd maxay sidan u noqotay dowladihii aan isku filka ahayn iyo kuwii aan ka waaweyneyn iyo kuwii aan ciidamada u diri jireen innaga ilaalin jirnay iyo kuwaan aan saraakiisha u tababari jirnay iyo wixii oo dhanna maxay saas u noqdeen waayo qofku dee kaagama jawaabi karo waxaa laga yaabaa inuu eedeeyo shacabkan soomaaliyeed baan micno lahayn oo kan ahayn oo liidarkii iyo wixii dhacay iyo waxaasoo dhan laga soo leexiyo aniga waxay la tahay meelaha wax ka dhubsan yihiin waxaa ka mid a inaan doodaas inaan u baahanay in dib u laabo dowladda aan rabno noocay u egtay ma noocii militariga ah anu kolley ma qabo noocaas waxaan aaminsanahay inay dhibaato badan ku ahayd soomaaliya haddii loo dayn lahaa noocii kufkufka innagii qabiilka waan kala rayn lahayn marka ugu dambaysta waan isbaran lahayn si aan u wada noolaano baan heli lahayn siduu hadda cabdiraxmaan sheegay wey aan ku wada noolaano innagii qabiilka iyo dimuqraadiyadda aan ku heshiisiinaan heli lahayn haddaan isdhex soconno inagoo xora oo sharaf leh laakiin taas chance laynooma siinina waxaa weeye dhibaatadii dee qabiilkiina oo cuqdadoobay oo balaayo noqdayna oo gaamurayna weli sidii buusi jiraa oo weli la baran baashii marka programming bay u baahan tahay iyo heshiisiin la heshiisiiyo qabiilka iyo dowladnimada ayadoo ay dadku xor yihiin taas intaasaan ka dhigi lahaa qodobada inta faraha badan hadda runtii soo noqnoqonaya intaana taa ka tegin waxaa weeye markii ilaa carta ilaa wixii soo socday oo dhan waxaad moodeysay inaan ku noqonay 60kii oo aan meeshii ay dowladdu inagaga dhuntay aan dib u doonnay dowladdii oon soo raad qaadnay waan soo soconnay han iska kufkufno kolba si heer ha usoo ahaato musuq maasuq ha iska soo jiro mooshin hebel ha la yidhaahdo dowladda hala dacaayadeeyo waxa raba ha laga tuuro laakiin waxaan haynay raadkii xorriyadda iyo is-ogolka iyo is-sabashada iyo dadku inay soo socdaan now dowladdii timid hadda ugu dambeysay aniga waxaan is leeyahay waxay la timid aragti ah aragtidii gacanka to eg marka taasi waxay keentay marka in ay istaagto
dimuqraadiyaddii yarayda kacaysay iyo is-ogolkii iyo iswadashadii dhowr sanayna soomaalidu is arag shirki dhuusamareeb baa isugu keena raysay waana la keenay jidwal baana laga gooyay annagu de rex baan ahayn waaba kasii darnaybo hawadii xataa waa laga xiray dhibal baa nagu abuuray wax federalism la yidhaahdo iyo wax dastuur la yidhaahdo kolley annaga haddaan rex baan nahay waxaan ila tahay annaga inaan nahay well experience inaan dhinacaas ku nahay oo ay ku fiican tahay in la weydiiyo xataa waxoogaa yaraa oo dastuurkii federaalku noo ogolaa qodobadiisa cadcad oo sheegi jirnay iyo kii jubbaland waxoogaagii ay isla qabeen noo ogolaayeen iska waxaysanan rabnay waa naloo diiday maalin walba waxaa naga dul imanaya warqad soo baxday oo meel ay ka timid iyo meel ay u socotaan aan la garanay iyo dastuurka meel ay ka haysataan la garanay waxaan weynay dastuurkii la sheegayay meeshu ka dhacay anigu constitutionka la joogay wasaaradda kasoo shaqeeyey runtii muddo dheer xilliga caasha ay sheegayso waan joogay aniga dadkii waxaan ahaa la taliyayaasha ahayo ka shaqeyn jiray intii ka dambeysana xoosh allah u naxariistay waan la joogay waan kasoo shaqeynayay marka dastuurka aan aada u ogahay kaas markay jubbaland timaado ingaar baa ku dhacday ka meeluu ku nool yahay ma jiro marka waxay ila tahay aragtidii dib bay usoo noqotay aniga waxaan qabaa bahasheeni kuf ahayd aan iska barane dowladnimadu halkaasi taallaaye taas inaan qaadano on taas raacnaan qabaa waxay la tahay kusoo gabayn lahaa qodob muhiima cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay factoriska waaweyne u baahan in ayagii dowladda la isqabadsiiyo oo ay ka mid tahay qabiilku uu ka sheegay oo ay ka mid tahay diinta mid muhiimaa jira oo hadda tan aan sheegayo nologu soo mar sometimes kulligoodna mararka qaarkood si qofba isagoo aan daacad ka ahayn la boodi kara waana meelaha dadka soomaalida laga kiciyo wey saddexdaas mid waa diinta mid waxaa waaye waa qabiilka midka kale muhiimka waxaa waaye wadaniyadda baasha wadaniyadda la yihahdo yaa wadani baashaas lafteedu waxay u baahan tahay in la xadido meesha u socoto iyo marka hadduu qof allahu akbar ku yidhaahdo ma inuu fake ka tahay inay dhab ka tahay ka fiirso hadduu yaa tolaa ku yidhaahdana inay fake ka tahay inay dhab ka tahay iska fiiri hadduu yaa wadani ku yidhaahdana iska eg ayada lafteeda inay been ka taha laga yaabo marka waxay la tahay saddexdaas waa saddex muhiim ah oo u baahan dowladda soomaaliya dowladda aan dhisanayno inay dhidibba u noqdaan saddexduba laakiin waa inaysan fake noqone ay sax yihiin arrinta muhiimka ah ee aniga aan isleehay way dhiman tahay oo in lagu dara ay tahay oo weli aan maaragtay aan ila tahay inaan weli aada looga hadlin waa arrinta dib u heshiisiinta ani ma qabo inay dib u heshiisiin sax soomaaliya ka dhacday dib u heshiisiin la-aanta waxay abuurtay inaan trust jirin oon dadku is-aaminin waxyaabaha asaaska u ah inaan la is-aamino waxaa ka mid a lama heshiin inaan la heshiinin waxaa daliil u ah tacadiyo badan baa dhacay soomaaliya muddadii burburka iyo dagaalka meel lagu ogyahay ma jiro cid iscafisayna ma jirto cid loo ciqaabayna ma jirto meeshay ka timid maaragtay walaashay caaisha waxaa laga yidhahdaa xalay dhalay bahal xalay dhalin la yidhahdo baa iska socota marka xalay dhalaydii waxaa ku iman la is-aaminaadii way ku imaan lahay marka waxay u baahan tahay xalay dhalay maehe hala iscafiye laakiin in wax la kala sheegto oo dadku isu imaadaan oo deedna dib u heshiisiin saxa la galo ayay u baahan tahan isleeyahay dowladda amaasinta aad baad mahadsan tahay intaanan u furin dadweynaha waxaan jeclay hal su-aal oo kale inaan weydiiyo panelka waxaan jeclahay inaan xoogga saarnana sideen hore ugu socon lahayn maadaama ayn in badan ka sheekeynay ama ayn ognahayba kana dharagnay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira sidee masalan xal loogu heli karaa inaan xoogga saarno waqtigan waxaa hadda runtii soomaaliya ku xoogeystay isku milanka awoodaha laamaha dowladda oo ay ka mid tahay baarlamaankii hay-adihii garsoorkii oo moodo inay siduu cabdiraxmaan si fiican uga sheekeeyaba ay isku milmeen taasi oo meesha ka saartay madax banaanidii iyo isla xisaabtankii iyo daahfurnaantii maadaama lagu jiro hadda ama dhowaan loo dareeri doono baarlamaanka dad cusub oo doorashooyin iyo waxaas la hadal hayo idinkoo taamaanka ku hayaa sidee baad u maleynaysaan in lagu heli karo baarlamaan iyo hay-ado garsoor oo runtii madax bannaan islamarkaana dib ugu soo celin kara nidaamkii aynu rabnay ahaa isla xisaabtanka iyo daafurnaanta waxaan ku bilaabay cabdiraxmaan
misdhehaysiin inuu jiro gaab oo ah gaabkaasito aslan fikrada ka sheegaysiin asaaskii oo lagu beeri lahaa ma jiro ilaa hadda asaaskaas misdhehaysiin inay tahay in la dhiso wacyiga bulshada awalan oo maanta inteenaan oo liidka ah inta maanta isla sheekaysan lahaayeen shacabka qaaba ula sheekaysan karno mala samayn karaa waana mahadsantiin macnaha su-aasha waxaa weeye xisbiyadu mashruuc qofeedka maxay kaga duwan yihiin kuwa hadda jiro su-aasha u dambaysa waxaa weeye nidaamka federaaliga rag badan oo siyaasiyiin hadda saaxada ku jira iyo deegaano badan oo kamid a Soomaaliya oo aad ula dagaali jiray oo waxaan aragnaa intii nidaamka farmaajo jiray aad ugu ololeeyay federaalnimada kaliya ma challenge-ga iska celintaaba mise caqiidadii iimaankii baa u siyaaday Soomaalidu waxaa lagu xantaa inay yihiin dad dulqaad yar waxaan taa uga socdaa worst case scenario anoo in badan kugu raacsan arrimihii aan ka hadashay iyo sida dowladnimadii ay maanta walwal dad badani ka qabaan in intii yarayda la haystay la waayo oo ahayd in 4 sano kasta ay dhacdo doorasho siday doontaa ku dhacdo la isku raacsan yahay oo lagu qanacsan yahay haddii marka taasi dhici weydo oo ay noqoto in waqti la siiyo madaxweynaha hadda 1 sano 6 bilood 2 sano iyo in lagu yaaco muxuu yahay optionka aan qaadanaynaa doodan de weligeeda taagay yaa iska leh hadda dowladda Soomaaliya yaa dumiyey haddii la dhaho qoladii rejiimkii military taageersanaan waxay dhahaan jabhadaha dumiyey haddii juca iyo raggii jabhadaha ku jira la weydiiyene dowladda yaa dumisay leeyihiin soo maaha doodaas horta weli waa taagan tahay yaa sabab ah yaa musabib ah yaa waxa sababay yaa se keenay laakiin hal mid oo laisku raacsan yahay jabhaduhu inay duurka galaan oo qora qaataan oo dowlado ajnabiga ay bees ka samaystaan inay noogaayeen maaha waxa ay waddankooda u dhimi karto laakiin waa midaan sheegayo masaaxaddii xorriyadda siyaasaddaa la xiray marka masaaxadda la xiro oo qartab ilinka lagaa siisto oo la yidhaahdo sbacekan kama furna cid aan taladan ahayn markii lagu yidhaahdo hadda waxaa ku qasban tahay waddo kale oo aad ku furo karta jidka inaad raadsato aniga marka inaan ku degdega jawaabteeda maba rababa qaanuunka dabiiciga ama natural lawga waxaa jira hadda haddii aan kor u tuurno hadda aagaas biyaha ama cirku joogi karaa dhul kusoo dhaca maaha haddii la xiro sbaceka siyaasadda xataa kuwa hadda siyaasadda hormoodka ka ah ama xisbiyada ama dowlad goboleeda hadday iska tagaanoo baadiyaha Soomaaliya iska aadaan dhaa siyaasadda waa ka tanaasulnay qolo unbaa soo baxayso sbaceka buuxinaysa marka inaa ogaatiin waaye dadka hadda siyaasadda hormoodka ka ah inay hayaan sbaceka inay xajinayaan ay leeyihiin war sbaceka yaan la sumaynin oo derbiga lagu tegin waxa ay ku kala duwanaayeen nidaamkii Zanawi Mengistaan rabaa iyo Moi iyo Uganda ninkii ka talinaya markaas waxa lagu kala duwanaa waxay ahayd kuwa talada waxay yeeleen in talada dhexda la dhigo ayaga iyo jabhadii la wada hadashiyo xukunka si nabada lagu wareejiyo Soomaalidu waxay ku leeyihiin maya Ethiopia maadaama dowlad masiixi ay tahay adduunka masiixiyada u hiiliyayo Mengiste meesha ka baxalay waxay la tahay inaan maxamed siyaad baraka baxla dhin meesha oo Talyaani iyo Mareykan isugu tagin may kula tahay waxay ku xiran tahay qofka xukunka iyo talada haya ka falantaa dalka inuu qalqal galo in si nabada looga tago qofka xukunka haya ka falantaa kama falanto qofka aan taladii xukunkiisa kama falanto taas waa inaan si fiican u cadaato haddii xataa kuwa hadda loolamayo ee mucaaradka iska tagaan xataa kuwa aan tegaynin oo xigmadda iyo caqliga iyo voice of reasonka dadka mucaaradka aanan garanayna imaan doona waxa marka annaga aan ka digayno waxay tahay war sbaceka ha furnaado taladana 4 sano lagu aaminay iska dhiib waxaan wacdiga u eg ee dadka loo akrinayo oo la leeyahay walaalayaalow yaan wixii yaray la duminin war waxa yarkaa cidda duminaysa gacanta qabta hadduu conscious iyo damiir oo jiro cidda duminaysa gacanta ha la qabto tooshka isaga ha lagu wada ifiyo
ha la yidhaahdo ciddaanaa diiday ijmaacii dadka iyo wixii dadka isku raacsanaayeen qoladaanaa diidan wa in daa'ifataani min almu'miniina qur-aanka maahan iqtataluu maxaa loo kala helinaya hadday qolo diido maxaa loo qabta loo leeyahay haddii le walaalayaal idinka iska joog war hadda annaga joogno xataa qolaan joogayna imaanayso oonan ogolayn inay joogto waxay rabaan ha ahaadaan marka taas si looga badbaado waa in cidda gardarrada wadda oo dulanka wadda oo diidan wixii laysku raacsanaa meeshaan hadda kahor markaan imidbidaasi waxaa lay sheegay January 9 meeshaan in lagu qoro Soomaaliya qolkii la geeyey doorashada January 8 halkaan lagu seexay soo ma ahayn haddii Xasan Cabdullaahi Deni oo January 8 diido soo socoto oo ma loo sacbinaya ma laskaga joogaya kula tahay xataa hadday kuwa siyaasadda u joogaan kuwa u joogayna imaanaya waxa Soomaali dhan ayna saamaysaaba cidda xukunka loo dhiibtay weliba dadka historical connotation kale inay waxa iska ilaaliyaan fiican sida hadda uu ninka xanta igu qaranayo uu leeyahay qoladiinaan jabhadaha ah dhinacii jabhadaha rabtiin qolada kale oo xukunka dhagaana xukun dhagaa iska ilaaliso labada qoloba baasha ka cararta su-aashii sameeya ee gaabka dhinaca wacyigelinta iyo maaragtay dhalinyarada la dhacsan xaggaas maxaad ka sheegi kartaa xamse horta sumaya mahadsan tahay arrinta ku saabsan intaan taa gelin magaalada muqdisho ayaan 2015 maya 2012 ayaa waxaa aad dhulka aad buqaali u ahaa magaalada muqdisho halka boos waxaa waaye meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa 1 milyan abaa furtay marka annagoo koox oo dhaqaalahana wax ka barbaranay waan isu tagnay waxaan isku daynay inaan garanno maxaa effect garanaya ilaan markii sicirku iyo waxaan dhaqaalaha markii la fiirinayo waa taqaaniin dhaqaalyahanada baa joogay dawladda bankiga waa fadhiyaa waxaa waaye wixii demanding iyo supply la oran jiray iyo waxbaa isa saameeya factories baa jira factorieski baan daydaynay waxaan garan weynay wax cilaaqo leh waxan oo cilaaqo leh waxaan markii dambe soo helay inuu yahay un emotionka dadka Soomaalida emotional the word of mouth waa dhulku waa qaalin baa yiri waxan baa saayiri waxan baa hal mar saa yiri kadibna waxa way dhulku saas iska noqday sababu qaali u yahay waxan lama garanayo oo waxan noocaas u noqday cid garanaysa malaha waxaan ka wadaa dadka Soomaalida waxa way dad oo very emotional taasa marka waxay keentay taan sheegaynaya wadani tolay Allahu akbar ta ay si fiican u saameysay oo dadka Soomaalida si fiican looga faa'iideysanayo marka waan ku waafaqsanahay Sumayo maadaama aan nahay dad aad iyo aad caadifadooda u weyn tahay waxa waaye mar walba sayxad iyo qaylo ordaysa imaanaysa waan daba gelaynaa waxaa la rabaa marka santarkan hadda halkan oo kale waa meelaha caqligu uu ka baxayo marka inay kanoo kale bataan santaradu bataan dadku inay hadlaan ya inaan hadallo debate la galo oo waxa waaye dadku ay caqliga adeegsadaan oo caadifadan faraha badan oo dhibaatada inagu haysa mar walba waxa waaye inaan iska yarayn marka ka qabiilka u ordaya uu inaga faa'iideystaa midka danta kale u ordaya uu inaga faa'iideystaa gaar ahaan dhalinyarada runtii dhalinyaradu waxyaabo keeni karaa jira haddii la fiiriyo masalan aragtida kacaannimada inay dhalinyaradu yar jeclaadaan hadda xilliyadan ama dadka Soomaaliyeed ay soo istaagaan waxyaabo keeni karaa jiro oo aad baa dadkeena loo dhibaa waa la ihaanaystay ihaana badan baan marnaa dibadaha markaan marayna waa aragteen dhibaatadeenna gaarta baasaboorradeena wax haysta waa aragteen qofka Soomaaliga aad iyo aad baa loo ihaanaystaa meel kasta markaad fiiriso taasi waxay keenaysaa de markii uu qof awood xataa asaga lagu dilo hadii la rabo lagu xiree askari wax xirayo wax darbaxshanay hadduu arko wallahi waan fiicannahay waa kaas ciidankeeni xoog buu yeeshay askari uu soo degay Soomaaliya arag reer dhan buu eber ka dhigay ama meeshii dhanaa uu soo istaagay in la yiraahdo weyn waxyaabo keeni kara way dhici kartaa laakiin kulli waxa soo dhawaa fake waxa xaqiiqada waxay tahay halkaas haddaan wax yar ku hakiyo tusaale ahaan mararka qaarkood waxaa dhacda waanigii lahaa dhulka hadda wuxuu qaali u yahay lama garanayo waxaa kaloo mararka la mid ah qof aad loo taageeray oo aad loo taageersan yahay aniga madaxweynaheena hadda tusaale ahaan waa madaxweynihii ugu taageerada badnaa soo maha Soomaaliya intaan hadda anugu kulley intii dambe
madaxweynihii ugu taageerada badnaa in la taageero waay runtii haddaad dib u laabato maxaa lagu taageeray ma ii sheegi kartaa wax lagu taageero 1 2 3 4 ii sheeg ma jiraa burbur baa dhacay nin yar buska ahaa dibaduu jiray madaxweynuhu raalli iga ahaado waddankan markuu burburay ma ku soo noqday maya ceel ma ka qoday maya dib u heshiisiin ma ka qayb galay maya MCH ma sameeyey maya waxuun ma abuuray iskuul ma dhis maya jaamacad ma sameeyey maya okay waaguu yimid 6 bilood buu joogay prime minister buu ahaa waa la yar waxoogaa in laga gardaraa baa loo arkay taas way jirtaa meeshaas waa baxay ma una sii joogin xataa wuu noqday wuu yimid doorasho ka qayb galay haddana hal habeen ma sii joogin wuu tegey wuu soo noqday waxaan ogeyd baan samaynayna kulligeen waayo aan u samayn ma garan waa dhulkii qaaliga ahan soo ma waa dhulkii qaaliga ahan waxan marka waxaan u baahannahay annaga inaan caqligeena iyo garaadka ana cabdiraxmaan hadda waa uu ordaya soo ma cabdiraxmaan waxaan ku taageerayno waa inuu cadiyo waa in la garan karaa maxaa lagu taageerayaa cabdiraxmaan maxaad qabatay xageed ka timid maxaad soo ahayd maxaad rabtaa inaad qabato maxaad geysatay oo dhiba xataa waagaad yaraad xataa maxaa dhibood geysatay waa weli qof ma dharbaaxday gabar ma dharbaaxday weligaa yani waxaan rabnaa in aan helno caqligeena inuu shaqeeyo aan u baahannahay marka soomaaliya anigu waan ku waafaqsanahay dhalinyarada keliya ma aha wax weyn jananabi halkii waxyaabahaasoo dhan wuxuu u baahan inaan hoos fiirino oon la xisaabtanoon 1+1 2 ay noqoto oo laakiin indhasarxaadka iyo balaayooyinka ay naga baxaan baan u baahannahay saan si xaqiiqa ah oo run ah aan dhulka ugu soconno oo inaan fake ugu noolaano amaasintii okay waxaan soo celinaynaa su-aalihii magacaygu waa cabdiqani maxamed su-aasheedii waxaan weydiinayaa cabdixaafis shukuur buu ku socotaa baanalka inta kalena way la wadaagaan sidaa ognahay siyaasadda soomaaliyeed maanta casharka uu halkan ka jeeday cabdixaafis shukuur wuxuu sheegay 6 caqabadood oo soomaaliya maanta inay transition ku jirto caddaynaya waa sax anu waxaan qabaa in soomaaliya wax u saxan hadda maanta ay yartahay qofka soomaaliga hadduu fadhiisto maanta waddanka caafimaadkiisu waa liitaa bulshadiisu waa liitaa amnigu waa liitaa hadduu istiraahdo caqabadaha tiri ilaa beri subax buu ku gaaraya laakiin hadduu isdhow wanaagga tiri wuxuu kusoo koobayaa keliya xilka oo si nabada laysugu wareejiyo marka waxyaabaha innaga u baahannahay waxa weeye haddana waxaa taabtay ninka halka ka hadlayay geeska qofka markuu xilka imaanayo ma naqaan yuu yahay waxaa laga yaabaa isaga taageerno qabiil waxaa laga yaabaa isaga taageerno caatibad kale waxaa laga yaabaa isaga taageerno waxyaaba kale marka su-aasha aan weydiinayo waxa weeye musharaxa iyo guud ahaan dadka xilka raadinaya intuusan qofku xilka qaban waxaa la rabaa inuu doodiisa soo bandhigo tiifiyada ka bandhigo waddanka xogtiisa waa haynaa miisaaniyadda sanadkii waa naqaan waxyaabaha dowladda lagu haysto waa naqaan adigu see wax uga bedelaysaa miisaaniyadda federaalka waxay 460 milyan how you manage see u maamulaysaa adu markaa xilka timaadi waxaa ku haysataa qolada meesha haysata si khaldan bay u maamulaan adigu sidee u maamuli lahayd caafimaadka see wax uga qaban lahayd meeqa isbitaal baa dhisi lahayd meeqa dugsi baa dhisi lahayd sanadkaadi koowaad meeqa wadaa dhisi lahayd waxyaabahaasoo dhan markuu qofku ka jawaabo isagoo bannaanka jooga hadhow qofku markuu xilka tago wax wixii baa lagula xisaabtamaya waxyaabihii hadda maqaalka nuga waxaa ka mid ah farmaajo markuu baarlamaanka joogay khudbad cajiiba buu jeediyey ilaa hadda khudbadiisii wax ka hirgala ma jiro waxaa ka mid ah in 2 sano dalka looga xiraynayo shabaab waana ognahay meeshu xaaladda maraysa marka su-aashaas waa mid in qofku soo bandhigo wax allaala wuxuu qabanayo uu bannaanka keeno su-aasha kale oo dhinac socota waxay tahay maxaa garanti garaynaya ma isla tanay daba socotaa maxaa caddaynaya markaa meesha tegtid wixii inaad qabanaysa ay ballan qaaday waa laga yaaba waa ku taageeray bannaankaa timi xilka waa qabatay laakiin hadhow marka inaad ballanti ka baxaysid oo aadan burinayn maxaa caddaynaya labadaas su-aalood baan rabaa waa dhammaan musharaxiinta o dhan bugso bismillaah magacaygu waa yasra yaasiin geeyo madow baan hawada ku maraa cabdiraxmaan cabdishakuur anigu waxaan ahay dadka doodihiisa aysan dhaafin labada su-aalood waxay ku socotaa hogaamiyaha su-aasha koowaad waxaa waaye mudane 4 sano oo walba 4 sano kasta marka hadeer lasoo gaaro waxaa bilowda isqabqabshi doorasho mushkiladu xagee ka jirtaa madamaca siyaasiga mise waa dastuurka sidee caqabadan looga gudbi karaa 4 sano markay dhammaato laisku qabsado su-aasheeda labaad waxaa waaye xisbiyada muqdisho ka jira haddana lagu daray heshiiska dhusamareeb sidee doorasho loogu galayaa maadaama aysan dalka intiisa kale ka jirin maadsan si toog aad baan u salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo hogaamiyaha xisbiga wadajir
suurtagal ma tahay iyadoo aan xukuumad jirin oo waddankaasi xukuumaddii mandate-ka haysatay ka jirin inaynu galno doorasho suurtagal ma tahay su-aasha waxay si toos ugu socotaa hogaamiyaha su-aasha labaad waxa weeye iga racla hawl baan racsanaya su-aasha labaad waxa weeye haddii hadda waxaa la gelayaa baa layidhi shir u dhacaya laba maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland horena waxaa u dhacay 3 maamul goboleed suurtagal ma tahay haddii kuwii kala reject gareeyaan kuwii horena ay marka hore reject gareeyaan muxuu yahay xalka inoo bannaan oo si isugu keeni kara istiraatiijiyada aad leedahay inuu kala talinaysay maxay tahay in la qaado haddii labadaasi iyo qolada kale isfahmi waayeen aad u maasantii waa Kamaal Daahir waxaan ka mid ahay dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya waxaan weydiin lahaa Cabdiraxmaan Shukuur waxayna soo maray labo waqtiyo isku eeg xilligii Xasan iyo xilliga hadda inoo socday farmaajo waxyaalaha qaarkood kala duwanaadaan laakiin meelo badan iska sawaabiya dadka Soomaaliyeed intooda badan waxaad moodaysaa inuu jiri karayo daal iyo in aaminaad darro dowladnimadii ah ay dhalan karayso haddii marka ay dhacdo doorashada soo socota in qof saddexaad oo iyaga taybkoodii ah leh uu yimaado maxay Soomaalidu ku damayn kartaa maadaama xogaal dheerna u tahay dalka bulshada rayidkaana aad ku jirtid labada kooxood ee markan ugu weyn saaxada Soomaaliya ku dagaalamaya qayb la yiri maaragtay wadaniyiinta xooga wadaniyiinta qaybna la yiri xoogaga mucaaradka farta ma nagu fiiqi kartaa ka bulsho ahaan si looga faa'iideysto aqoontaada aa u leedahay iyo maaragtay xaaladda dalka ku jiro halisa ma nagu fiiqi kartaa farta ma oran kartaa bulsho ahaan waxaa idinla quman inaa halkaa taageertaan kooxdaas adoo naga deynaya ilaa walaaga haddaan ugu horeeyo daqani oo weydiiyey xilka sidee u maamulaysa kaas dee markii aan PDRC ay kambeynkeeda iyo musharaxnimadeyda aan ka loonji garay waa jawaabahaas markaasay imaanayaan waxaan u gudbaa Yusra Yusra waay iyo madow 4 sano kasta maxay u timaadaa dooda kala guurka lagu maareynayo ma dastuurka mushkiladda mujtamaca siyaasiga waa su-aal u fiican labadaba waa tahay laakiin dastuurku wuxuu sheegayaa in 4 sano kasta doorasho la qabto laakiin sharcigii doorashada lagu qabo lahaa iyo qaabka doorashada loo qabo lahaa iyo nidaamka doorashada lagu qabo lahaa waxaa laga rabaa dowladda qeybeeda kala duwan oo baarlamaanka u wen yahay markii la yihahdo xagga sharciga samayntiisa iyo laanta fulinta oo qaybtii siyaasadda mas-uulka ah oo amnigii iyo kala dambeyntii iyo wixii lagu qabo lahaa imkaaniyaadkii dhaqaale ama nidaamkii ayada mas-uulka ah labadaas marka waxaa dhacaysa marka labadiiba inay fashilmaan oo ay ku fashilmaan wixii laga rabay inay qabtaan waktigiina uu dhammaado dastuurka uu sheegay halkaa marka waxaa ka soo baxaya damaca siyaasiga ah xoogaysanay oo ah shaqadiina waa ku fashilmay la ii xil saaray oo ahayd inaan sharcigana diyaariyo siyaasaddii lagu fuli lahaa sharcigana aan la imaado oo amnigii iyo dhaqaalihii doorasho lagu qabo lahaa iyo qaabkii loo qabo lahaa aan sameeyo labadii ayadoo samaynin oo la haynin iyo wuxuu rabaa inuu sii joogo xukunka marka ilaa hadda say ku soo socotay marka qoladii ka horreysay nidaamka hadda jira markay garabsadaan inay mas-uuliyaddii loo igmado ahayd doorasho qof iyo coday inay qabtaan ay ku fashilmeen talada dhexda iska keenayeen waxay lahaayeen annaga waa qabo weynay doorasho qof iyo coday saas daraaddeed dadku ha ka tashado sida doorasho lagu qaban karo saasay ahaa jirta laakiin qoladan waxaa laga diidan yahay waxaa laga la-yahay waxaa waaye taladii inay dhexda dhigaan oo dadku ay ka tashadaan sidii transitionka ama kala guurka loo maray lahaa marka taas waa middaas qodobka labaad dastuurka sidee doorasho loogu gelayaa xisbiyada ayagoo dalka oo dhan ka jirin waa run markiina caasha ka dhawaajisay xisbiyada anigu doodayda ma ahayn beri iyo beri dambe ha shaqeeyaan ama ha lagu howlgalo laakiin doodayda waxay ahayd haddii loo jihaysta dhinacaas waa laga miro dhali kara hadday miro dhal yihiin maaha macnihi waxa keenayna waxaa waaye hadda Puntland oo kale 1 sano gudaheeda laga shaqeeyay Soomaaliya in sanadii xoogaa u badato in xisbiyada ay ururada siyaasadeed dhahdaan idinkee
ururada siyaasadeed ay howlgalaan ilaa haddana waa la kala reebay oo 10 aan soo hartaan u malaynaya haddeerta urur siyaasadeed waddo lagu heshiiyeyna mareen sababta hadda ay u guulaysteen mataqaanaa waxaa waaye dan siyaasadeed hadda taaganaan jirin oo doorasha hadda iminka taagnayn saas daraaddeed marka guddiga madaxa bannaan ee xisbiyada qaabilsan xukuumadda talada haysa axsaabta mucaaradka ah kulli waxaa lawada ogol yahay talada waa lawada ogol yahay sababtoo wax deg degoo hadda miiska saaran ma jiraan hadda ka hor waa la diiday waa ogeedeen maxaa loo diiday sababtoo doorashada ilinka saarneed waa la garan karaa marka maxaa marka la rabay madaxweyne annaga hadda waxaan ku haysanaa doorasho qof iyo coda xisbi lagu galaa ku leeyahay ilaa hadda xisbi ma laha se u rumaysanaa marka qofaa isagu xisbi lahayn oo ku leh doorasha xisbi lagu galaa saacaddiina ay dhacday oo in jiritaankii lagu jiraa marka waxaa waaye mataqaanaa waa tacqiid maxaa waaye arrintaa laga dhigaya wax caqabadaa loo suuraynaya oo maxaa la rabaa in la yidhaahdo qolada xisbi annagii xataa xisbiyada usoo halgamayna 4 sanana la dhihi rabaa xisbiyaday diidan yihiin maxaa kaloo la sameeyey qof kasta arji dhiibtay xisbiga waa laga qabtay 90 dhowraa noo furan hadda adiga xisbiga ka shaqeeyey golo fulin leh guddi dhexe samaystay xarun leh halgamaya dastuur leh isarajar leh iyo qoladii ka sheekeynaysa caasho waa isku halaatiin labadiinaba xisbiyatiin saaki doorashadiina 90 dhowr xisbiya in lagu galo la rabaa waxaas marka fiiri ma laga shaqeeyey hanaankii xisbiyada lagama shaqeeyo xisbiye maxay ku jiraan sheeda waxay ku jiraan in la kala reebo oo parameters iyo loo dejiyo halbeeg loo dejiyo oo la yidhahdo halbeeggaas u tartama wadan lama dhihin 9 gobol inay ka furan yihiin 300 qof inay ku jiraan dadka soo lama wacayni guddiga doorasho inta gobolada tagaan dadka soo telefoon uma dirin imaada meesha marayn annaga hal subax kaalaya xisbigiisaas qaybtii labaad u gudba cid tiri malaha cid wax la weydiisa malaha balse xorriyaddii siyaasadda aan ka xir inaan seminaar qabanno inaan shir qabsanno inaan dadku soo saaranno inaan kulamo qabsaan naloo diido haddana waxaa lagu leeyahay xisbiga doorasho war waxaan waa wax laysaga jeedo oo hal shufnaa la yidhaha carabta ma u jeedaa waa u jeedaha dhigaxyaa wax soconaa maaha saas daraaddeed xisbiyada ha lagu galo waa xujo waa meeshuu sayidina cali yidhi kalimatu xaqin yuraadu biha albaatil waa xaq kelmadda laakiin maxaa loola jeedaa baatil ha kuwa duwa weliba anoo xisbi mitida oo 3 sano iyo bar waday asaas dhahaya ogaada daacad kama aha marka dadka xisbiga waa sababto hadday daacad ka yihiin waa horeyna kala reebi lahaayeen hadday daacad ka yihiin waa hore xorriyaddii siyaasadda noo ogola lahaayeen hadday daacad ka yihiin ayagaa xisbiga fura lahaa hadday daacad ka yihiin xisbiyadaa bajedkooda iyo tabartooda iyo waxooda la sii lahaa marka waxaa la rabaa in lagu hoos dhuuntaa la rabaa xisbi macnihiis taas waaye qodobka xareed oo weydiiyey oo xukuumadda la-aan doorasho ma ase loo qabana dalka xukuumad inuu yeesho waayo madaxweynihii waa laga keri layaa xukuumad samey markuu magacaabaya khayr sooma dhageysan isagoo leh 30 maalmood aan haystay 16 aan ka isticmaalo dhahay madaxweynaha waa record on the record taala haddana wuxuu leeyahay 30 ma qabataba dastuurka marka ba anaa dawladii ah oo saan rabaan dastuurku fasiramaya macnaheedu mise dastuurku waa ku qaban karaa ogaada hadda ka horna waa sheegay sharci iyo dastuur wuxuu macno yeeshaa cidda awoodaysa markuu qaban karo sharciga aan siciidani qaban karin waxba tari maysa muwaadin miskiin oo jidka mara inuu qabto sharcigaha oo madaxweynaha ilaalinaynin cid laga rabo inay ilaaliso ma jirto sababtoo aan nabiga calayhi salaam risaalo asaa keena soo maha gabadhiisa markii uu yidhi haddii ay waxaddo sharciga islaamka waa ku fulinaya markuu dhahay waa gabadh oo dhaleede asagaa looga daysan hadda sharciga hadduu asagu aaxda sameeyo haddii aa ka dhagaysa sharcigu sheegayo marka dalka madaxweynaha xukuumadda u keeno fulinta xukuumadda iskale dastuurka xukuumadda ugu taalla waxyaalaha aan ku tuunsannahay in hore loo socdo inaan la rabin maxaa ka mid ah xukuumad keenaa la kirilaya madaxweynuhu oo ayada negotiationka siyaasadeed gasha ra-iisul wasaarihii markuu negotiation ka galay ee quruxda badnaa oo jeclaa oo lahaa anigoo iga fiican yahay golihiisa wasiirada waa iga fiican yihiin maalintuu negotiation siyaasadeed oo serious xasan cali khayra bilaabay hortaa laga geeyay ra-iisul wasaare in la keenana lama ogola cidda marka nidaamkaas jecel oo qaabka talada xukunka noocaas jecel waxaan ku celinaya hadalkii sumayaan dabagelayaa waa dhallinyaro aan ogeyn
ama ogaanayo markay waxa soo dumaan ahluxalli walcaqdi maxaa loo yidhahdaa iliid aa la yidhahdaa qur-aanka mala u yaqaan dadka noocaasa shareecada iyo siirada ahluxalli caqdi u taqaanaa waxay arkaan ma sugaan waxa inay kor dumaan nin dhallinyaraho markay baashi soo dunto oo la kala cararo inuu ordo rabo taladiisa dee lama sirto hadeertaan talada dadka ahluxalli walcaqdiga adduunkan u taala walayaasha arkaysiina ama congress ama laleeyahay meesha la yidhahdo ahluxalli walcaqdina da maahay ogaada da maaha inaad 30 jir tahay inaad 20 jir tahay maaha nabilyon markuu faransa xoreynaya 40 sano jiro da maaha wuxuu waa kaskaagii xilkasnimadaada wa qofka xilkaskaa wuxuu arki karaa waxa intaysa soo dumin qofka arkaya 60 jir ahaada ama 70 jir ahaadee markay baasha soo dunto inuu arka rabo kaas annaga talo lama leeyi isna ogaano wa kamaal daahir haddii qof saddexaad oo noocii yimaado aniga waa aaminsanahay doorashada soo socoto waa serious stayka soomaaligana waa high sidii xamse uu sheegayo qof iska soo digriya dalkan taladiisa mar dambe laguma aamini karo waa in laga wada hadlaa lana ogaadaa dad badanoo asxaabteyda aniga hadda oo saaxiibadayo siyaasadda damac kale oo madaxtooyne hore waxay dhahaan cabdiraxmaan adi maxaa la qaylin oo la doodaysaa oo aragtida usoo bandhigaysaa siyaasada soomaaliya last minutekaa la imaadaa waa la huursanaadaa dhag waxaa alaabaha la kala tuurtaa dhag xukun saasaa lagu helaa adiga maxaa ku xiijinayo war waxaan dhahay aniga haddaa aragtideedana arag oo qalbi dhagax markii la dhiibo ra'yiga ka qaba aana sheegin oo markii jawaari xilka laga tuuro ra'yiga ka qaba aana sheegin oo doorasho dowlad goboleed markii la boobayo la dhacayo aana sheegin oo markii madaxweyne jamhuuriyaddan madaxweynaheeda ahay ee laboorka ma bixi kartid la yidhaha subxaana udhis aana ka hadal oo markii maaragtay dowlad goboleedyadii la dumina la yidhaha aana ka hadal oo markii dadkii xorriyaddii la diido oo jidadka xira aana ka hadal oo dadka canshuurta shabaab ay ka wada qaadaan dowladda aan ka hadal war xukunka iyo talada aan raadinayo ma magac farmaajo ka bedelaan rabaa mise waxaan rabaa talo iyo aragti farmaajo ka bedela taas dadkay u taallaa anaga nooma taalo dadka talada dhiibaaya oo go-aanka dhiibaaya u taallaa doorashada soo socotaa isteegeeda waa serious haddii lagu cayaarana waa meeshii la dhihi jiray laga yaabe inaan gadaal u noqono sanado fog laakiin aniga hal cabsi kama qabo optimistigaan ahay markiina doodeeda ku sheegay wax kastoo maanta noo dhisan dadkaas wax ay dowlad soo biirisay ma jiraan hal wax oo saakid dowlad soomaaliyeed ay soo biirisay ayna dhihi karto waxaasa ay ku sheegtaa ma jiro wax walba annaga noo dhisan yahay laakiin markii hore maxaan u dhacay dowladdii markay duddo hal maraan kala daadanay meel la isku sheegaan la waayaba haraj wa maraj waxay dhihi jireen aa dhacay xagga waa la wareeray laakiin haddeertaan waa degannahay maamullo goboleedyaha jiro oo aniga hadda xamar kusoo wareero halkaan iska imaan ama jubbaland saaxiibkii xamsaan u tegi ama galmudug waa kasoo jeedaa la yidhaha tegi ama hiiraanoo ku dhashaan maanta tartiib haddeertaan meesha lagu kala carar hadda ma jiro dadkana waxooda ayagay u dhisan yihiin oo jaamacadaha iyo iskoolada maalin dhaweedaan comment yar bixiyey wasaaradda qorsheynta la furaya dhismaheeda waxaa lagu dhejiyey meesha la furaayo xafladda daafurka madaxweynaha sawirkiisa oo weynaa lagu dhejiyey war waxaan dhahay dadka wasaaradda qorsheynta markii hore duminaayeen waxay u dumiyeen inuu madaxweynaha iskale u haystay ha laga daayo dhaqankan madaxweynaha hadduu xafladda furitaanka imaana asaga ha imaado good laakiin sawirradan meel kasta la suraayo waxay dadka u malaynayaan inay madaxweynaha iyo waxa ayaga isleeyihiin ayaga wax wada leeyihin u haystaan dadkana waxaan rabnaa inaan barno inay waxa dowladdu lahayn ay shacabka leeyahay hadda marka isbitaalka iskoolka telecommunicationka dhismaha wax walba dadka in ayaga iska leeyihin aaminsan yihiin goonis ma hadda qof isku duminaa jiro wadaa iska leh waa barayfade wax kastoo dhan hadda fiir etoobiyaankii iyo dowlad iyo jabhade iyo annaga kooxa ku jirnaa diratay dadku waxooda u haystay cid hadda inta baxday hormuud bilaqaysatay ama iskoolo soo bilaqaysatay dadku wax ayagaa iska leh marka annaga waxaan rabnaa dowladda waxba nooma keenine waxa yarkaa oon haysano yaysan naga duminin yaysan noo dhimin yaysan dhibaato noo geysan intaasaan leenahay waa maasin ninka dhallinyarada ah muxuu su-aashii weydiiyey horta marka ugu horeyso cidda khaldan iyo cidda saxan xilligan oo kale waxba lama qoro xilligan waxa weeyaan waa markii kala cararayda ah bay bilaha reen weeyaan midna waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaan joogay dhusamareeb 1 iyo dhusamareeb 2 dhusamareeb 1 iyo dhusamareeb 2 waa aragteen 5 beri intaan la gaarin go-aan baa la soo qaaday 5tii maamul goboleedba waa israaceen ma isweydiina sababta isku raaceen ma waxaan dhihi karnaa qalbigooda burcad la isku mariyey oo maxaa waa isjeclaysteen oo wixii oo dhan baa saa u fududmay
hal mid bay isku raaceen waxay isku raaceen waxay arkeen waxoodii oo la boobay baarlamaanka wuxuu ansixiyey qofka kursigiisa meeshuu rabuu la aadi karaa xildhibaanka ah haddaa gaalkacishada ka timid waa jubbaland waa la aadi kartaa haddii jubbaland axmed madoobe ku dhibo baydhabo waa la aadi kartaa macnaha taas baa la yiri waxaa kaloo la yiri kursigii gabaru fadhido gabar baa sii fadhiyeysa waxay arkeen waxaan qabiilaa lahaa macnaha gabadhu waa la dhihi karaa gabadhu muxuu ahaayey 24% bay awal haysteen gabdhuhu 24kiisa ka yaraan laakiin wixii reerku shala lahaa macnaha gabar ma sii fadhiyi karto marka odayaashu waxay arkeen wixii gacmahooda kasii baxaya marka waxay dhaheen intaan gacmuhu waxay kasii bixinin aan bahasha hal mar isku wada raacno sidaas heshiiska degdega keenay kii dambe oo dhuusamareeb tiriina jiq bay noqotay maxaa yeelay wixii baa sii adkaaday marka waxa waaye runtu markay timaado baad qofna taageeri kartaa qofna aad diidi kartaa inuu saxan yahay waxaan dhihi lahayn waxa waaye xilligan qof kasta ayaa u baahan oo looga baahan yahay inuu gacan qabto dowladnimada si aanan isku lahayn sida cabdiraxmaan sheegay maasantahay oo arkaa inaan isdhar leegna haddaan istaageen aad baan u faraxsanahay DDRC Talks barnaamijkeedii 13aad inaan kasoo qayb galo sharaf bay ii tahay inaan su-aal iyo comment aan ka bixiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob hadday cabdiraxmaan uu ka hadlay dadkuna sideeda waxay ka hadlaan arrimaha maaragtay la xiriira magacii raaliyaa la yidhahdo raalli hadda magacaan tilmaamay qolo walba markii la maago waxooda waxay dhahaan difaac bay galaan moogta marka waxaan rabaa inaan qodob haddaay dadka halkan jooga laga yaabo inay si fiican u maqalo ah in dowladnimadii marka u horreysay Soomaaliya dowladnimada bilaabayay ay ku bilaabatay waddo aan sax ahayn qodobkaas aad iyo aad baan ku taageersan marar badan baan ka hadlay haddii dowladdaas sax ahaan lahayd haddii dowladdaas dowlad sax ahaan lahayd siyaad barana ma imaadeen qof la midana noociisoo kale ma imaadeen marka taa horta waxaa rabaa inaan isla ogaano waxaan muhiim ahna ani aaminsanahay sida haddaa ay sheegaysay in wax la qoro marka hore hodhow aan qof madaxweynaha dambe uusan ka gudbi karin sida hadda Kenya samaysay oo kale waxay yiraahdeen golaha wasiirada inta ay noqonayaan xataa waa la qoray dastuurka lagu qoray waxaa la yidhi intaas wasiirada golaha wasiirada noqonayaan wasaaradda walba waxay yeelanaysaa howlahaas job descriptionkaas taas marka waxay keenaysaa haddii madaxweyne kala yimaado si aan wixii u noqon siyaasad hadda sida waddankeena حتى كنت لو كده على مالبو inflation أكون على كل وزير هذا أفراد كتر سماعي سلوكن يبالو أما ما ارتجارة دنا جارة له مركا سيتها لو عروح لو بهاي سوى ده كان عبد الرحمن وقلت أنا بسنة هاي قارب الدولة ما دوفها هنسيا ضد كان آديات ولد السنة هاي ممكن يجي هاي وهذا اللي يسأل مركا اللي يسأل وحبنا كفائده وعارفين على الوح والباقي القراء القراء الدستور أهان وقراء كعض لا يقاضه مركا سيساء institutional كنا قطع عن هذا ولا قد حكر وما ستين وهالجماعة سواء الجماعة وحنا استعلم جاريد الصومالية كنت هو هري ولا يدري ويدو حلمها الكاهن عاد ولا شغية مرك إلى كد أنت كده بيستلم هاي هالجم مرك بدو الآية بوشة في الجاس أنت كدي وقت هو جاري هاي وحنا أورلها هاي كان أقول من الجناح قلت هو الدكتور ورجل هنا على جماعة اليوم تقول له بس إنت خليك تجر كدورش يعني دورش يعني أفرت بري أو كنت بري هو هذا وحي يقولوا غتانيش خاصة إنا دورش الفرنك ولا مدة بالضبط ولا مدة ولا مدة ورد ولا مدة قوة ما في حلال هاي المركة إلا لو تبيه أنت اللي فيه هذا إن لو تولدنا الناس تتكتو national unity government وهذا النورست دستور كاس اللي النورست والله يا غالده كتبني ريتك بحنا إنه بركة رنت تسوي موضوع هذا هذي دورش عطاء دعوه يعني نقول أنت دولة أجنبية كله أنت مستوصلة كله أنت العيا دول تعال بركة أنا ما ينوض أختار ريد هذاك أين بركة واحد غلي أنت أختار سياسية دولة معمولة جوانات دولة الحياة سياسة عبده تطلع كلام جالسين هذا ذلك قلنا بس فكرته وحنا إنها يستوحى كم هذا أنا وحنا قراء هذا ياسين مع الشيء قدام دور شد عليه وحده من القضاء عليه ودي مدلل كورسين قارين شو كل كاحل هذا ما بدي شيء اللي هاي مثل ما كان بدي مركز هذي لو هاي ما عرفتي دور شد عليه دمكم بالبرية لا وين حتى لقيتش لو مو قطع
afartan beri inaan doorasho ku dhici karin marka xalli kaleeto waa in la kala cabdiraxmaan cabdishukuur baan waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo anoo waqtiga ilaalinaya waliba hal daqiiqa magacayga waa maxaa cali xisi waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan dowladdan waxay jirtaa hadda Soomaaliya 3 sano iyo 6 bilood maxaa is leedahay wixii ay ku xun tahay iyo wixii khalad ay gashay waa isla garanay laakiin waxaad noo sheegi kartid caawa is leedahay dowladdan way ku fiican tahay ma jiraan أنا waxaan qabaa doorasho waa dhici kartaa waa dhacdaa ku dhacayso laakiinse waa laga wada hadli karaa laakiinse waxaan rabaa inaan kala saaro doorasho toosan iyo mid dadban baa hadda suurtagala midda dadban oo suurtagalana waxaa la rabaa in laga ilaaliyo calaamadaha iyo astaamaha doorashada tooska ah doorashada dadban ma maamulo guddiga madaxa bannaan ee doorashadu waayo xilkiisi lama qaban kaa waa in dibadda laga dhigaa waxaan kaloo oo kaleeto ah laguma maamulo sharci baarlamaanku ansixiyey ee waxaa lagu maamulaa heshiis la wada dhigtay markii heshiiskaa la dhigtona meel loo celiyo ma jirto oo baarlamaan laga doono laga raadiyo ansixid suurtagal maaha kii hore baa lagu khasaaray bay suurtoobi weyday waxaana ay doorashadii dhacday ku qabsoontay dekreeto madaxweyne oo uu muxuu ahaa xasan sheekh uu soo saaray ee go-aan baarlamaan laguma maamulin wixii doorashay dhacayana laguma maamulin sababtoo ah muxuu ahaayey go-aan baarlamaan wuxuu khuseeyaa marka doorashada laga hadlayo doorasho toosan iyaga ayaa qaban waayey guddiga doorashada isaga qaban waayey iskasta ha uga cawdo markaa ma khuseyso waxay loo baahan yahay doorashadii muxuu ahaayey 2016 oo la casriyeeyey oo kor loo qaaday oo ah laga qaaday laga ilaaliyey la yareeyey dhanka corruptionka tirada la kordhiyey meelahay ka dhacayso la isweydiiyey corruptionkana aada loo ilaaliyay doorashada ayada ah waxaa maamulaya ma aha guddiga doorashada guddigii tii ugu dambeysay hadda waxaa maamulay dadku inayna ka warhayn baa la hayaaye guddi heer federaal ah oo ka kooban 5 hay-adaha federaalku ay soo magacraabeen muxuu ahaayey 10 ay magacraabeen muxuu ahaayey 16kaas tiradaas oo ah muxuu ahaayey 6 iyo 5 oo waxaa ku jira midmida sidaasay ahayd hay-ad la wada lahaa ma ahayn hay-ad qaaban oo dastuur la waafajiyey waxay ahayd hay-ad heshiis ka soo baxday dowladda muxuu ahaayey guddiga doorashada dowladda waxaa maamulay oo ruulka ka mid ahaa hay-ad ay dowladda lagu qabanayo doorashada iyo dowladda dhexe ay wada ay tiradooda wadaagaan taas ayaa qaban karta taas ayaa dhici karta wax kale oo laba waxoo aan islahayn oo aan haddii ay waxa soo baxan karin sidaa awgeed way dhici kartaa waana inay dhacdaa sababay u baaqato ma qabo kalsoonida uu cabdiraxmaan qabo anigu aadkaas kalsoonida badan uma qabo waxaa dhici kara wax aynaan garan karayn waxaa ka sahlan inaynu ku dadaalo in aan see dhacaysaa haddii inta rabta doorashada siyaasiyiinta iyo shacabku ay go-aankaas wada gaaraan muxuu ahaayey dowladdii waxay inoo ka burburtay dowladda militariga haysan maahay jabhadii baa midoobi waayey hadda waxa waaye dadka raba dalka inay midoobaan ha ahaadeen goboleed ha ahaadeen iyo ha ahaadeen muxuu ahaayey caana marka dalka haadaanta ka tuuraya kuwii ka soo qaban lahaa haddaanay jirin waxa weeye zero sum arrimahan la yidhaahdo iyo gegi aad baa umahadsantiin su-aasheedu waxa weeye cabdiraxmaan kusoo dhawow madasha iyo xamse iyo caasho aad baan kaaga mahadnaqayaa inaad madash timaadid hogaamiye aragti ku dooda inaad noqotidna aad bay u anfacaysaa geed socodka dowladda soomaalida su-aashaan rabaa inaan weydiyo waxa weeye mawduuc marka qaarkood aad ka hadashid oo arrintaana geopoliticska gobolka waxaa ka socda isriixa jira cabdiraxmaan oo cabsi ma qabtaa gobolka waxaa jira barnaamijka kan integrationka gobolka wax badan aan lagala socon madaxweyneheenu caashaqsan yahay meelo u dhoofo dadka uusan la wadaagin heshiisyo ku galo weliba adisaba iyo casmara
arrintaa waxaan jeclaan lahaa in aad wax ka ifisid arrintaas su-aasha umasan raaga committeegiisa waa raacsanay waana mahadsan yahay axmed barre saaxiibkay axmed barre xasan waa saas waxaa jira horta inaan doodeeda yaro dhaafay xoogaa xataa xishoodka qaran waxa la yidhaha xishood qaran soomaalida xishood shaksiyaan naqaana soo maaha yacnii xishood qaran xataa waxaa moodaa inaan yaro gabnay oo ah qolo la ilaaliyo oo in ajnabi ilaaliyo ajnabi ay kala celiyaan inuu xaalkeenna yahay dhalinyarada wadaniyiinta horta in loo sheegay ay u baahan tahay ma xishoonna marka axmedow aniga horta wax weyn oo dagaal iyo cabsi iyo mashaakil dhacaya ma aaminsan waaba sheegaba dadka wax badanna ayagaa iska leh soo iskamana diinayaan waxa ayagaa dhistay sababtoo ah waagii hore dee waa ogeeda moogta wax walba dowladdaa lahayd dadku waxay lahaayeen waa yaraayeen midda kalena waxaa waaye qolada ajnabiga oo nala degan oo sheego nagu dhex jirto oo ayaga dee maslaxadoodii iyo dantooda ka ilaashanaya inay soomaalin ay og tahay xataa beeshii caalamka maxay tiri ay kuleeyihiinna waa joogaano annaga ahayd inaan yaro xishoonnoo heer nala soo kala dhex galo oo madaxweyneheenii safiir ajnabiya marna waco marna mid gooba goboleed soo waco marna kii federaalka waco marna la yidhahdo isku taga marna la yidhaahdo isku imaada xooga inaan ka xishoonnay ahayd taas oo ma ahayn qoladaasna horta waa joogto ah oo hadda walwal weyn oo hadda adigii oday cabaas aa qabtaanoo waa la kala tegayaa iyo waa la dumayaa saas weyn aniga horta ma qabo mana yaraysanayo sida same time ninkii maxamed cali xirsiyaar wuxuu yidhi dowladda maxay ku fiican tahay dee taas mucaarad lama weydiiyo taas dowladdaa la weydiiyaa aniga opposition aan ahay waa sheegay mucaaradaan ahay laakiin haddii aanba u guda galaba ilaahay markuu khamriga iyo qamaarka ka hadlayo waa wada xun yihiin lama dhihin waxaa nacfiyaa ku jiraa leeyihi maali wa ismuhumaa maxay ahayd akbaru min nafcihi maale nafcigay leeyihiin laakiin hadda adi ma dhihi kartaa khamriyaa nafci leh sanada soo istaagto ma dhihi karti khamri waa xun yahay xaaraana leedahay qur-aankana waa yiri oo u hadi inay nacfi leeyihin waa sheegay iyo qamaarka labadooda marka aniga dowladda hadday nacfi leedahayna waxaa aniga iiga xoog batay dhibkeedii iyo mushkiladeeda ka xoog badatay dhibkii iyo mushkiladiiana waxay qariyeen wixii nacfi ay lahaa leed kuwaasaa qariyey arrinta geopoliticska haddaan kusoo saa usoo koobo aadaan ula qabaa wasiir juxa walwalka oo qaba dhowr jeer hole iyo madallo kala duwanna waa uga hadlay in maaragtay annaga bariga africa markii la joogo iyo khaliijka cadmeed markii la joogaba soomaaliya geo strategic alliance ay lahaa jirtay oo taariikhi ah oo sooyaal ah oo qoran oo taariikhdeena qaarkood dowladnimo ama dagaaladii siyaasadeedan galnay iyo loolankii siyaasadda geeska africa aan uga jirnay mar kastana garab sii jiraa jiray dowladda hadda jirta oo dadkaas waa ignoor garaysay daaqadday ka tuurtay dan kamaliinay tiri waxay noo samayn rabtaa alliance cusub geedi cusub ay noo samaysay noomana sheeginoo dood qaran inta lasoo bandhigay nalama dhihin kuwii hore waxaan uga guurnay 1 2 3 4 kuwa cusubna waxaan ugu guurnay 1 2 3 4 dadkii aanay sayno loolanka naga dhexeeyana wax hadda damaanad ah iyo heshiis iyo waxaan ku aaminana nalooma sheegin waxaa la yidhi khayrka annaga unbaa inii og maa uriikum ilaa maa arahana la yidhi annaga unbaa khayrka inii ogaana la idinka iska jooga suuragalna maaha laakiin ilaahay mahaddiis waayo isbahaysiga asaanba hadda meel u socdo jirinoo qoladii gashay qolowba mushkila dhinaceeda u haysata runtii laakiin annaga isbahaysigaas bilowgiisiina shakiyan ka qabnay wax kasta oon daahfurnaan lahayn oo transparency lahayn oo doodeeda bannaanka lasoo dhigin oo aan dad kale la wadaagin oo aanan dadka ahluxalliga wal caqdiga ama dadka talada iyo masiirka wax ku leh aan lala sheergaraynin oo aan lagala doodin oo laga qancinin oo miis hoostiisa lagu haayo waxaasoo dhan xataa hadday fiican yihiin wax fiican maaha sababtoo lama yaqaano fiicnaantooda marka annaga isbahaysigaa shakiyan ka qabnay waana ka qabnaa waxaana aaminsannahay in lagu noqdo asalkeennii oo alliancigii istraatiijiga ah oon lahayn in laga gabadana maaha dadka ahluxalli caqdi inay ka gabadaan maaha waana in la caddeeyaa meeshii aan ku jiri jirnay iyo meeshii masaarteena ka goyi jirtay dadkii na garab qaban jiro isku tashan jirnay inaan aadna xaggooda haddii kuwo cusubna loo samaynayana doodeeda naloo soo badhigo na ka qanxaya u baahana waa maasanteed
waa mahadsantahay hal su-aal baan anigu rabay inaan weydiiyo waxaa jirtay inay qolada jubbaland ay another commitment ay leeyihin ay naga baxayaan arrinta runtii hadda beri dhoweyd lagu soo dhex tuuray ee dadka aada dood uga kicisa waxay maqaamka muqdisho sida uu dastuurku dhigayo maqaamka muqdisho waa in laga hadlaa dib u eegista isla markaa dib u eegista dastuurka lagu daraa meeshii markaas iyada xal buu noqon lahayd go-aan ay ka soo saaraan labada aqal ee baarlamaanku laakiinse waxaad moodaa hadda in meeshii laga weeciyey marka waxaan jeclaan lahaa idinkoo soo koobaya bal arrintaas sida aad u aragtaan iyo sida waxa laga yeelaya markaas abdiraxmaan baan marka hore ku bilaabay waxaan ku bilaabi lahaa xamse waxay la tahay asad waaye wax ka weyn ma aha markii 13 lasoo tuurayeyna wuxuu iska ahaa act oo siyaasadeed buu ahaa markii dambe hadda wixii ka dambeeyey iyo guddiyadii kulli waxaasoo dhan wuxuu ahaa arrin siyaasadeed bay la tahay laakiin anigu siyaasaddaasi waxay ku qotantay in ay dadka la qaybsamaan oo dad gobolka banaadir colla ah iyo dad gobolka banaadir u doodaya in laynoo qaybiyo gobolka banaadir waxay la tahay dee waa caasimadii soomaaliya magaaladii muqdisho constitutionkana waxbuu ka leeyahay oo kulligan waan wada naqaanaa oo waan wada akrinay qodobka 9aad waa la wada yaqaanaa ee dastuurka soomaaliya iyo maqaamka iyo suuqa samaysmaayo iyo nooca laga rabo caasimadda in maqaamkeeda loo caddeeyo taas hadda wax badan in laga sii sheego ma bahan laakiin arrinta siyaasadda waxay la tahay meesha la rabo inay gobolka dadka reer banaadir ay focus gareeyaan innaguna aan focus garayna waxaa weeye caasimadda keliya ee ay sida la sheego ay dad malaayiina degan yihiin tiradooda say noqotaba in basna lagu sheego waxaa weye 1.5 million baa degan 2 million baa degan qaarkood 3 million bayba dhahaanba yaa degan baa la yidhahdaa dadkaas intaa la eg oo canshuurta laga qaado oo dowladda dhexe ay degan tahay oo maxaan ku dhahaa jidadka laga xiro oo qaraxyada inta faraha badan ay ku dhacaan inta badan baabaa dadkaas biyo lama siiyo xataa biyo nadiifay cabbaan ceelashoodii in dib loogu habeeyo lama siiyo caafimaad lama siiyo jidad 20 kilomitir ay dhiseen nimankii waxay atracta ugu dambeysay wixii kalena meesha ka dhaceen lama garanayo nabadgelyo lama siiyo wax service haba yaraatee oo la siiyo oy dowladdaas siisa ma jiraan intaa waxaa uga sii daran waa 17 degmo hadda 17kaa degmo xataa dowladdan le 1 man 1 vote baan soomaaliya ka qabanaynaa 1 person aan dhaha bas 1 man iska daayo qof iyo cod aan iska idhaado qof iyo cod baan qabanaynaa dowladda leh oo cross soomaaliya dhan baa laga qabanayaa xataa go-aan oo aniguna ay noocay tahay waxay awoodi laadahay ama la siin layahay ama loo qoori layahay dadka reer banaadir in ay council loo dhiso oo ay maayirkooda siduu services ugu sameeya ay doortaan intaasaa loo samayn layahay marka horta waxay la tahay bal sidaa bal senators intaad soo marka waxaa weye dadka siyaasadda ku jira nin siyaasi ah oo dadka cod kaga raba oo raba inuu problem abuuro oo dowladda madax ka ah ama mid banaadir asagu sheeganaya oo raba inuu yidhahdo dadka waan ka xigaa oo siyaasi ah oo raba inuu ama prime minister ku helo ama hawl kale ku helo ama dan kale ku helo ayaa dadka waalaya wax dad doodu meesha jirta waxaa weeye dadka caasimadda degan ee reer muqdisho dantooda waxaa weeye in dowladdu biyo siiso inay nabadgelyo siiso inay caafimaad siiso inay jaanis u siiso inay mayrkooda soo doortaan oo aan loo soo magacaabin siduu services ugu qabto iyo wixii adduunyada caasimadaha say u dhaqmaan dadka joogaa degan si ay iyaguna ugu dhaqmaan waxaan 13 iyo waxaan la sheegaya aniga waxaan u arkaa waa saraab kasoo dhaan dabagaalo maahan jirin waa iska saraab siyaasadeed oo waxaa weeye loo soo duuray in markaas wax taagan ya markaas wax taagan in dan lagaga quunsado loogu talagalay way wax micno weyn uu keenayana ma jirto caadifadii aan sheegayay iyo booskii 1 milyan ah ya wax uu qaaliyoobay aan la garanayn
ayaan dadka soomaaliyeed waxayna isweydiinaynin xataa war haddii even 13 la keeno 13 yaa dooranaya ilaan halkan waxaa la yidhi assemblyga oo regional assemblyga dooranaya soo maaha senatarada waayo kuwa ayaa dooranaya madaxweynaha haddana ayaga soo magacaabaya so a simple question oo u baahan in la isweydiiyo marka waxay la tahay aan caqliga la hadalno aan ka dayna baasha caadifadii aan sheegayno maasita عاش محل كدر aniga de hore u caddeeyey soo maaha mowqifkii arrintaas ku hadin doodii aan habeenkii jeediyena hadda waxaa fasiray shirkii ka dhacay samareeb 3 waxaan sheegay inay waxaan politics tahay politics waxaa la yidhahdaa game siyaasadeed inay tahay keliya oo wax hadda daacadnimo ah ee meesha ka maranta waan inta xamsi sheegay madaxweynaha xaafadda wardhiigle ee villa soomaaliya ku taallaa war xataa banaadir maahanay wardhiigle city council loo sameeyo horta banaadir intaan la gaarin xataa marka wardhiigle city council loo sameeyo banaadir city council loo sameeyo dadka banaadir waxay u baahan yihiin maqaam iyo matalaad oo danahooda ayaga dadka localka oo shacabka lagu matalay u baahan yihiin oo cashuurtan gobolka ee shabaab iyo dowladda ay ka wada qaadayaan jid shabaabna inta qarxiyo dowladdana jid ka xirto isbitaaladan ayaga ay iska bixinayaan caafimaadka oo wax public health iyo oo loo qabanayo ama service caafimaad aysan haysanin cashuurta ugu badan dadka laga qaado ay tahay dowladda waa la socotay hadda markii laga hadla arrintii caafika waxaa loo sameeyey halbeeg la yidhaahday cashuurta waa inaad siyaadisaan boqolkiiba intaas yay ku siyaadinayeen dowladda dadka muqdishoon baa lagu siyaadinaya cashuurta si loo miid garayo ama loola kulmo halbeeggii dayn cafinta dadka ma lagu celinayo maya dadka ammaan ma la siinayo maya dadka caafimaad ma la siinayo maya dadka dad matala ma loo sameeyo city council ma loo sameeyo maya nin meeyar ahaa mar isku dayey xilkaaba laga qaadiba waxaa la yidhi si adigu u hadli kartaa inaad samayso hadda markii dhuusamareeb la isku yimi marka waxa inay feeg ahaayeen ee politic ahay waa caddaynaysa meeyarkii muqdishona waa joogay madaxweynihiina waa joogay waxaa la yidhi senatarada waxaa soo dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada banaadir ma dowlad goboleeday leedahay ma baarlamaan ay leedahay banaadir waa waxaan dhahaynay war horta ha la sameeyo assembly ay banaadir leedahay si ayaga ayatiinkaasi u goyso soo ma aha waxaa hadda dhuusamareeb tiri ka soo baxday inay wixii feeg ahaayeen ayadaas caddaysa oo hadda banaadir waa laga tegey sababtoo ah banaadirna waa la og yahay male dowladdeegaanoo xildhibaan soo dooranaya senatar ma jiro soo maaha qaabkaasaa loo dooranaya lama dhihin lagama hadal 13 marka maxaa waaye wax ciyaal xaafadda dhihi jiray eeyaa cune waay waa dhammaatayba intaas sheegaynana intaasay ahayd oo dadka soo xamsi sheeg in laysku hor keeno qolo meeshaan reer puntland iyo reer jubbalandna waa diideenoo aniga waxaan adeeryaala waxaa diidiin meesha maba yaallaan ya qoladii banaadirna waxay dhahay waxayna la diiday war waxaad haysatiin oo la diiday meesha ma yaallaan geynka oo leadershipka dalka oo marna gobollada laysku diro marna shucuubta laysku hor keeno geynkaasay qayb ka tahay waana ayaan daro ciddii laga filayo dadka inay heshiisiso isku keentay kalsoonidii aaminaadda u dhisto inay ayada qaybinaysay ayada politic inay qaybinka dhex wado ayaan daro ka weyn oo maanta soomaaliya haysata ma jiro waa maasantii aad baa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan hadda rabaa inaan hadal yar siiyo oo soo koritaan ah gudoomiyaha guddida la talinta b d r c professor senator Churilo waxaan kaloo uga mahad celinayaa dhallinyarada soo dadaashay oo danaynaysa oo ku mintidaysa inay wax bartaanna waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo uga mahad celinayaa kuna ammaanayaa dadaalka b d r c samaysay hawsha ay qabteen waa uga mahad celinayaa waayo inaanu jebino xaydaamkii in la jebiyo xaydaankii ahaa COVID-19 uu nagu xiray inay jebiyeen oo ay albaabkii fureen oo ku fureen cabdiraxmaan oo dhibaato badan oo aanay soo mari jirin kuwa aad soo marti qaadi jirteen isaga u soo bareeray oo safar dhulkaa ku yimi garow dhulkana kul diyaarad bay kuwada imanayaan soo ma
aada iyo aad baad u mahadsantihiin inaad halkaa ka sii wadaanna guddiga la talintu raallibu ka yahay waana ku mahadsantihiin waana idinku dhiirigelinaya shirka waa inoo xiray